waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo lama huraane عليكم السلام سالود شارك وقت haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo wana lama huraane hagarlii wax ugu qabo wana lama huraane hagarlii wax ugu qabo شرقرية معان وامدان خوي لغا ورمي هليو معان وامدان شرقرية علاقة الصومالي صوصارة معان وامدان خوي لغا ورمي هليو معان وامدان ويلغا ورمي هليو نيجي هذا يا باش قال صومالي بس صومالي بس كله شرقرية كليو أتمنى دكيني إنك عليني سالود آمنا آمين سمران آدم خصوص سلامة يا شرقرية باب شارت فوق الشارت حنفي كليلي برفنا لبكيني إنك عليني صومالي شرقرية كليدهاي دلكاغا هويو haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo wana lama huraane hagarlii wax ugu qabo wana lama huraane hagarlii wax ugu qabo sharqraya inta Soomaalinimadu ku weyn tahay wanaaga iyo sharafta ku dambaysa dalkaaga hooyo haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo sharqraya wana lama huraane hagarlii wax ugu qabo wana lama huraane hagarlii wax ugu qabo الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقال الله تعالى الحمد لله الذي أعلم بالغلم علم الإنسان ما لم يعلم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على ينطق الهوى عن هو إن هو إلا يحيي اليوحى وقال الله تعالى وجاء حقا وسحق باطلا إن كان باطلا سحوقا الحمد لله إلهي بمهله ليس بقوتي وكرمه ليس بقوتي وحيلتي وكرمي كرم أوضا لا يهمنكم إيمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي قرشديسي iyo hanuunintiisa iyo maartay soo sheeg ilhaamintiisa ayaan halkan ku soo fadhiistay
ma cilmi kama cilmi badni dadka, kama aqoon badni, kama karti badni, kamana hadal badni, laakiin karaamka ilaahay baan halkaa ku imid, aan kusoo fadhiistay iyo dad jacayl iyo wadani jacayl. halkani aad nagala socotaan waa Empire of the World Media oo idiin soo gudbinaya. halkan aad nagala socotaan waa Empire of the World Media oo idiin soo gudbinaya barnaamijkii faaqidaada siyaasadda iyo dareenka shacabka Soomaaliyeed. aalaba sidaad nooga barateen waxaanu soo galnaa goorahan oo kale, ama hadahan oo kale, ama xiliyadan oo kale, ama waqtiyadan oo kale, ama hadahan oo kale. haddaba dhegaystay ama daawada barnaamijka caawa faaqidaada siyaasadda iyo arrimaha milicsiga faaqidaada siyaasadda iyo dareenka shacabka Soomaaliyeed. waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble oo helay kalsoonida golaha shacabka Soomaaliyeed, waxaana si qalbiyad ah u ansixiyay markaasi 215 xildhibaan oo golaha shacabka. ma jirin wax markaa diiday ama ka aamusay. waxaa kaloo aan idin haynaa iyadana oo barnaamijkayga ka mid a maayirka afar jeeblaha, maayirka degmada Boorame oo Saleebaan afar jeeble, Saleebaan Xasan Caddi, oo markaa gobolka Awdal ku wada wax la yidhaaha markaasi ku qabso ku qadimaysiday iyo ila meerayso baryahan dambe isagoo markaasi hanti ururis iyo markaasi ku jira dhul boob. iyadana markaasi war baan idiga haynaa. dhanka kale siyaasiyiinta saaqidiinta ee markaasi ka soo jeeda gobolada Awdal oo hankoogu aad u yar yahay, oo aan caawa halkan iyagana aan wax ka leenahay insha Allah haddii la yiraahdo. barnaamijku wuxuu ku koobnaan doonaa markaas saddexdaas qodob. dhanka kale waxaan iyadana aad iyo aad u cambaaraynaynaa Faysal Cali Waraabe oo ku tilmaamay gobolka Awdal meel ergargixisadu fariisato baryahan dambe ergargixisa ka timid. arrintaasoo leenahay waa arrin aad iyo aad u fool xun. waxaan leenahay waxa weeyaan Faysal waxa weeyaan waa nin laga guuray. waxa weeyaan waxaan u aqaanaa anigu maaragtay soo sheegnin in laga guuray ninkaasi. waxa weeyaan xerooyinka militarigu iska gala. waxa weeye control ma laha. waxa weeye waa inaan ognahay oo maaragtay soo sheegana samafalaha iyo traffic robotka laga soo qabto, baabuurtan in laga soo qabto weeyaan. marka Faysal lama yaabanin, waxaan la yaabanahay laakiin dadku garab joogo dulmigaasi mar walba ogol maaragtay soo sheekuursanaya dulmiga iyo qurunka. dulumaadka ilaahay baa nacab inaad guursatana maaha. rasuulku calayhi salaatu wasalaam dulmigu ugu nacabba. dulmiga markuu ka hadlayay ama laga hadlayo waxaa ka hadlaya aayadan kusoo degtay wajaa xaqa, hadduu xaqu yimaado, wasaxaqa baadila, baadilku wuu tagaa, ina kaana baadila suxuuqa. baadilku waa mid socda, mid suula weeye, mar walba ma joogo meel. marka waxaan leenahay aad baan uga xunnahay dadka gobolada Awdal sharafta iyo cisiga leh ee ka soo jeeda Adal Empire, boqortooyadii iyo maaragtay boqortooyadii irfaad ka soo jeeda iyo saldanadihii markaasi facaweynaa ka soo jeeda, in maanta ay huursadaan qurun iyo maaragtay waxaan la garanayn, iyo inay markaasi u noqdaan dad hayin u noqda hadhaagii SNM, jabhaddii SNM hadhaagoogii u noqda Muuse Biixi oo 1800 oo qof ku dilay, oo ilaa imika maaragtay guris ku haya iyo dil iyo toog maaragtay ku jir dibindaabyo ku haya ilaa imika marka daba socda. waxaan wada ogsoonahay oo aanu caawa si fiican uga hadli doonaa gobolka Awdal waxa la rabaa in la kala qaybiyo, in Boorame oo kaliya ay ku eekaataan baa soo socota. waxa la doonayaa waxa la yiraahdo gobol saddexaad baa la doonayaa in laga dhex meesha laga dhex wado. siyaasadaasi waa siyaasad laga soo aloosay waqtiyo hore dhinaca Jabuuti, ama maaragtay soo sheeg xayndaabka markaasi Jabuuti laga soo aasaasay oo ay wadaan Sacad Muuse, iyadoo la doonayo markaasi in la yiraahdo ciisiye Sacad Muuse dhul ay leeyihiin weeyaan, dhulku dhul Samaroon ma aha. guud ahaan iyadoo la doonayo 6 degme ee la laalaadiyay ama xayiran ee taqaanaan ayaa la doonayaa in 6daasi iyo maaragtay soo sheeg 2 degmo kale lagu daro in laga dhiga markaasi la yiraahdo waxa weeyaan gobolka Almis. sirtaasoo dhan baan idin haynaa. waa sir aanu ka soo helnay maaragtay ila diblomaasi oo xogogaala oo miiska dul yaala. doorashooyinku markay dhacaan waxa lagu dhawaaqi doonaa markaas lagu dhawaaqi doonaa. waxa la yiri sagaaradu
markay budka ku dhacuun bay baraarugtaaye inta ka horaysa warba ma hayso waa kaafiye kala dheeri waraf iyo shimbiri war iskuma hayaan waxaanu barnaamijka markaa insha allah kusoo qaadan doonaa xayndaabkii barnaamijka ku noqon doonaa oon insha allah barnaamijka aan daadahayn doono waxaan idiin daadahaynaya barnaamijka walaalka sida aad iiga barateen waxa weeye rugo cadaadigi soo rogaal cali baryahan dambe barnaamijka waxa weeyaan waa yar dansanaa mashquul fara badan baan ahaa howlo badan baa igu soo faruurmay waxaan leenahay insha allah hadduu ladhaa imika ayaanu sidii hore usoo noqonaynaa rugo cadaadigi soo rogaal cali halkani waa aad nagala socotaan waa Empire of the World Media oo idiin soo gudbinaya barnaamijkii faaqidaada siyaasadda iyo dareenka shacabka Soomaaliyeed alabas waxaanu soo galnaa goorahan oo kale ama hadahan oo kale ama xiliyadan oo kale waxaanu barnaamijka dhegeysta ama daawada barnaamijka aanu caawa ku qaadaa dhigi doonaa ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble oo soo hor istaagay maanta baarlamaanka ka hor muuqday kadib isagoo helay kalsoonida buuxda oo golaha shacabka ummadda Soomaaliyeed waxaa si qalbiyad ah u ansixiyay 215 xildhibaan oo markaasi koranka xildhibaanadu ay ahaayeen golaha shacabka ma jirin wax ka markaasi diiday mana jirin wax ka aamusay kaasi kadib waxaa markaasi dhanka kalena waxaa markaasi ajantihiisa soo bandhigay ra'iisul wasaare Rooble oo markaasi soo hor istaagay markaasi golaha shacabka Soomaaliyeed isagoo markaa tilmaamay waxqabadka ama se markaasi golo uu qaban doono haddii markaasi loo ansixiyo markaa la ansixiyo kadib markii la ansixiyay wuxuu markaa tilmaamay in qodobada ugu horeeya ee uu ka qaban doono ay ka mid noqon doonaan amniga iyo doorashooyinka qodobka saddexaad oo ah marka horumarinta dhaqaalaha qodobka afraad cadaaladda iyo garsoorka iyo qodobka shanaad dowlad wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa qodobka lixaad dib u eegista dastuurka qodobka toddobaad dab u heshiisiinta Soomaaliyeed sideed iskaashiga caalamiga sagaal ilaalinta xuduudaha iyo badda Soomaaliyeed qodobka tobnaad ilaalinta dhaqanka iyo diinta ummadda Soomaaliyeed ay ku dhaqan tahay waqti badan ayuu u baahan yahay ra'iisul wasaaruhu haddii uu u guto waajibaadkiisa oo u guto guud ahaanba waxaanu halkan markaa ku faaqidaynaa ra'iisul wasaaraha oo ah nin markaasi ku nool dalka Sweden guud ahaan gaaraan u aqaano nin maartay edeble oo aamusan ah guud ahaan intaan ka aqaano degan markaa caasimadda aan wada degannahay Stockholm deganaa gaar ahaan degan xaafadda markaa xaaskiisa iyo carruurtiisu ay ilaa imika degan yihiin teenista runtii waxa weeyaan injineerka waxaan ku naqaanaa waxa weeyaan nin ka baxay jaamacad markaasi ku taala Stockholm oo guud ahaan ka baxay markaasi guud ahaan qaybta engineerinka waxaanu wada ogsoonahay inuu maartay yahay nin aamusan oo degan ayaanu aad iyo aad ugu naqaanaa oo hab socod oo diintana aad u jecel nin diin leh run ahaantii ra'iisul wasaaraha waxaan leenahay halkan baan ugu hambalyeynaa waxaanu leenahay anoo ku hadlaya afka dhalinyarada iyo afka aqoon-yahaniinta maartay soo sheega reer Sweden ee guud ahaan aqoon-yahaniinta markaasi gobolada oo dalka soo jeeda ama anoo ku hadlaya afka Northern State of Somalia iyo afka maartay ururka aan gudoomiyaha oo ahay marka la yiraahdo Northern Somali Society ururka kale markaasi aan ka tirsanayna Awdal State waxaan u hambalyeynaa leenahay hambalyo ilaahay xilka lagu dhiibay ilaahay kugu asturo garabkaagaan taaganahay mar walba muu ahaw mid maartay dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa anfaca oo maartay ka shaqeeya waxyaalaha loo baahan yahay gudoloolada maanta jira ka shaqeeya hawl badan baa ku sugaysa kulay waxa weeye nin xil qaaday eed qaad waxaan leenahay xil baa lagu dhiibay xilka ilaahay kugu asturo waxaan leenahay markaasi Maxamed Xuseen Rooble waa injineer aan aad u naqaano waxaan leenahay garabkaagaan taaganahay annaguna waxa weeye kama maqnin oo waanu ku imanaynaa waanu kala shaqeyn doonaa insha Allah laakiin waxaan leenahay garabkaaga ilaahay ha asturo ummadda Soomaaliyeed maanta waxay u baahan tahay qof isku soo dhaweeya waxa weeye kooga mucaaradkooga iyo ka maxaafidka aba dad isku soo dhaweeya loo baahan yahay ilaahay ha ka dhigo Rooble roob u daay Soomaaliya Allah ha ka dhigo madar ilaahay u daay Soomaaliya Allah ha ka dhigo iisoo sheeg maartay rays iyo barwaaqo ilaahay u soo saaray Soomaaliya Allah ka dhigo maxamedkii labaad
maxamediyada allaha kaa dhigo kuwa maxamediyada lagu tilmaamo ee maxamediyada ah ee Soomaali Ilaahay u soo diray Ilaahay kaa dhigo waxaan leenahay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo Maxamed Xuseen Rooble kuwa Soomaali ay ku ragaadaan kuwa Soomaali ay ku raystaan kuwa xuduudahooda iyo badooda iyo maartay ilaaliya allaha kaa dhigo kuwa mideeya allaha kaa dhigo midnimada iyo horumarka Soomaaliyeed ninka shaqeeya allaha kaa dhigo waxaan aaminsanahay inaad tahay nin muwaadina nin afgaaban nin degan oo aan ahayn maartay soo sheegdagta degdega sida degdega go'aanka u gaara oo aan ku ognahay tan ka aqaano waxa weeyaan waa nin nala degan in badan waa aqoon-yahaniinta nala degan halkan weeyaan Stockholm aad baan idin ku salaamaya waxaan leeyahay hore u soco ummadda Soomaaliyeed maanta waxay u baahan tahay in waxa la yiraahdo in loo sameeyo waxa la yiraahdo maartay reconciliation maartay in loo sameeyo u baahan tahay in dib u nabadayn in laga shaqeeyo u baahan tahay waxay u baahan tahay kala ummadda Soomaaliyeed baahiyo fara badan bay maanta qabtaa oo dogsoon tahay waxay u baahan tahay in xalinta khilaafaadka laga shaqeeyo oo guud ahaan political resolution aad la timaado oo aad khilaafaadka Soomaali dhex yaala aad ka saarto Soomaali maanta wax iskala iskuma hayaan bad iyo xuduud iskuma hayaan waxa way qabaa'il iyo waxa dilay tribalism wax la yiraahdo inaad ka saarto in horumarka ummadda dhalinyarada in aad hormariso dhalinyarada shaqo abuur aad u sameeyso inaad ka shaqeyso ayaa laga doonayaa shaqooyin badan baa ku sugaya nin waxa weeyaan markaasi shaqadaas oo dhan baa ku sugaysa waxaan ku leenahay anaguna hambaliyaan ku leenahay waan kugu hambaliyanaynaa congratulations baan ku leenahay gratis baan ku leenahay waa istuur gratis maanta waxa weeye waa maalin marta gratis istuur gratis baan leenahay aad iyo aad Soomaalina aad bay ugu riyaaqday meel kastoo ay joogaan jaaliyadaha Soomaaliyeed ee Scandinavianka iyo jaaliyada Sweden guud ahaanba xaflad caawa habeen hore ay qabsadeen aad iyo aad baa la isugu yimid arintaana waxa weeyaan waa la bogaadinayaa waxa weeye qof kastoo ka soo baxa ama ra'iisul wasaare kastoo la magacaaba wuxuu ka soo baxaa Scandinavianka waxa weeyaan hadduu yahay maartay soo sheegana Xasan maartay soo sheekayre waxa weeyaan waxa weey nin isaguna Scandinavianko Norway ka soo baxay buu ahaa Sweden waxaanu ka sugaynaa kale inay ka soo baxaan haliyeeyo iyo siyaasiyiin aqoon leh oo dalkooda iyo dadkooda ku soo celiya wax inay ka soo baxaan oo rajeynina annaguna waan ku daba soconnaa talaabada dambe aan ku daba qaadayna weeyaan waxaan leenahay hore u soco Ilaahay ha ka dhigo midkii mideeyo ummadda Soomaaliyeed ee ka dhiga baynasiin wasaaq mideeya baynasiin wasaaq Soomaali iyo Suudaan iyo mideeyo iyo gobolka guud ahaanba kana dhiga markaasi kuwa maartay ka shaqeeya horumarka gobolka iyo wanaaga horseed u noqdo Soomaali haliyay bay ahaayeen waynu naqaanay dadka waxa weeyaan Soomaali 1971 maartay soo sheegana maartay 68 ilaa iyo wixii 7-yadii waxay ahaayeen horseedkii iyo hormoodkii maartay Afrika ay ahaayeen waynu ogeyn in uu ahaa gudoomiyii ugu horeeyay ee markaasi ONU-da loo doorto inuu ahaa Maxamed Siyaad Barre waxaan la Ilaahay idaga dhiga sharaftii iyo cisigii Soomaaliyeed kuwa soo celiya laga dhigay adiga iyo Farmaajoba waxaan rajaynaynaa shaqo badan bay idin sugaysaa waanu ognahay dhibaatooyin fara badan iyo maartay soo sheeg inay hor yaalaan caqabado fara badan inay hor yaalaan kuwa dhaxda u geejista u noqda kuwa maartay wada tashada oo aan ku tafaraaruqin Allah idiga dhigo waxaan rajaynaynaa inay idiga soo baxo maartay aad ka shaqeyn doonto sidii habgelinta iyo dhaqangelinta guddigii doorashooyinka ina aad dawlad maartay soo dhisto guud ahaan isku dheeli tiran oo tafaqtiran oo guud ahaan golaha wasiirada cabinet minister kuna ay ahaadaan dad dhalinyaro oo aqoon-yahaniina inaad soo dhistana waanu ka rajaynaynaa insha Allah waxaanu rajaynaynaa insha Allah aad u leedahay inaad ka shaqeyso xuduudaha Soomaaliyeed iyo faragelinta Soomaali lagu hayo ee wadanada shisheeye ay ku hayaan inaad soo afjirtana waan sugaynaa international community ha ku eekaadaan shaqada iyo shaqada ay leeyihiin oo kaliya ma aha waxaynu ogeyn xiliyadii aynu dawladda ahayn maanta dawlad lama oran karo waxaan kale dawlad lama oran karo dawlad markaanu ahayn waxaynu ogeyn safaarad kastaba askari baa hor joogay xataa waxa weeyaan siyaasiyiinta wadanka soo gala CAD iyo maartay nabad sugid baa jirtay daba socon jirtay maanta waxay noqotay Soomaali kuwa iyaga laga maartay soo sheeg loo soo qoro wax loo soo waarido inaad ka saartaan wax loo soo qoro iyo cidda ka shaqeynaysa hagardaamadeena guud ahaan ha noqoto arinta aad siyaasaddu ee maartay Soomaaliyeed intral maartay arimaha gudaha ee siyaasadda arimaha gudaha ee Soomaaliyeed in faragelin ay soo geliyaan caalamka iyo wadanada maartay soo sheeg jaarka lanaha iyo kuwa shisheeyaba inaad ka ilaalisaan weeyaan maxaa la yidhi waxa weeyaan soo sheega inaga ilaaliya labadaasba in la ilaaliyo weeyaan markaasi
waxa weeye barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen waxa weeyaan maanta waxa aynu sartu halkii ka qudhunsan tahay waxa weeyaan waa dad loo taliyey baynu nahay dad maaragtay soo sheeg laga danaystay baynu nahay dad waxaan nahay la kala faquuqayo oo loo kala sheekaynayaynu nahay waxa weeye ummadda Soomaaliyeed maanta taasay u baahan tahay waxay u baahan tahay xuduudeediina in la ilaaliyo la sugo badeedii iyo kheyraadkeygii nimcadoodiina in loo soo saaray u baahan yihiin saynu isku filnaano waan isku filannahay source inagu filan baynu haysanaa waxa weeye natural source inagu filan waxa weeye populationkeenu waa dad aan 20 milyan ka badnayn way inagu filan yahay dhulbeedkeena iyo waxa weeye sourcekeenu laakiin waa maxay waxa inaga maqan qaabkii aan wax maareyn lahayn maareyntii bay inaga maqan waxa weeyaan nin la sugayo maxaad sugi raqba waa raggeega maanta waxa weeye Soomaali waxa weeyaan hadday silic ku raagto iyo hadday sareedo ku warto Soomaali ba iskale Soomaali mashriq wa maghrib ila laas aseera ila ras kamboni ila law yacdo Soomaalida degan waa midnimada Soomaaliyeed ba laga doonaya wada hadalka miiska wada hadalka inaad soo dhigto dadka gobolada waqooyi ba la doonaya taasa laga rabaa oo hortaala inkastood waqti haysan waxaanu laakiin rajaynaynaa in waqti wuxuu u baahan yahay ra'iisul wasaaruhu in waqti la siiyo waxa weeye waqtigaaga hore waxa weeye dawladdaada soo dhista la doonaya oo aad cabinet ministerkii soo diyaariso wixii ka dambeeyana aad ka shaqeyso insha Allah hadoo la ilaaho maartay soo sheeg arimaha doorashooyinka oo dabka saaran si markaasi geedi socodka iyo maartay tubkii toobinta la warrabo in loo socdo iyo toobinta nabadaynta Soomaaliyeed si ay u hana qaado waxa la rabaa inaad ka shaqeyso inay dhacdo doorasho xor iyo xalaal oo taas aad doorasho deegaanku waa iska dadban yahay waa doorasho dadban buu la qaatay waanu arkaynaa waxa weeye maanta xul maaha waxa weeyaan xal baa la yiraahdaa xal baa loo raadinayaa laakiin xul buu iman doonaa xaaladdu xul bay iman doontaa xalkuna waxa weeyaan waxa la yiri guurguur waa lagu guriyo gaara waanu ku guriyo gaaraynaa hadda laakiin si lama doonayo musuqmaasuqiyo istabaweydaarkii inkastoo aan aad uga xunnahay in laga dhigo maartay arimihii ay doonayeen isoo sheegana waxa la yiraahdaa maartay isoo sheega maamul goboleedyada qaarkood sida Puntland oo kale ay doonayeen wixii ay hoostay ka soo qorayeen ay ka soo qoraan arimahaas oo dhan in la ansixiyo la adkeeyay laakiin haddii xal loo arkay waxa weeyaan waa la baas qiimo ma laha waa laga tagi karaa wixii xalka ah waxa la yiri intay calooli buki lahayd cagto bugto calooli intay buki lahayd waxa la qaatay waanu ogolnahay waxa la yiraahdo oo maartay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo macnaha uu qaatay wuxuu qaatay soo sheegana isku soo dhaweyn iyo tanaasul buu qaatay mar walba tanaasulka isaga sameeya waanu ku soo dhaweynaynaa taa laakiin waxa weeyaan waa in laga tagaa waa inay maanta meeshii ugu dambaysan noqotaa waa inaan mar dambe aanan doorashada lagu gelin nidaamka noocan ah ee imika la leeyahay doorashada dadban oo ay ka duwanaataa oo doorasho xor iyo xalaal ay dhacdaa oo la yiraahdo maartay doorashada maartay soo sheegana one man one vote inay ka dhacdo oo ah xuquuqda dastuuriga ay dadku leeyihiin ummadda Soomaaliyeed leeyihiin sida ay u ana qaadaan arimaha noocaasa waxa weeyaan waa la gaari doonaa guurguur waa lagu guriyo gaaraabaa la yiri waan ku guriyo gaaraynaa laakiin waxa weeyaan insha Allah hal ilaaliyo musuqmaasuqa at least in la soo yareeyo aad baan ugu hambaleynaynaa in maartay soo sheegana ufuudii iskugu timid guud ahaan magaalada Muqdisho iyo maamul goboleedyadii inay isku waafaqaan waxaan leenahay waa arin guula oo la gaaray oo in hore loo socdo waxaanu aad iyo aad uga xunnahay hadalka ka soo yeeray beesha caalanka ee markaasi hagardaamada ah ee markaasi ku aadan ee ay dhaliilaha ku sheegayaan waxaan leenahay beesha caalanka naga ilaaliya war labadana kala ilaaliya laba qolo iga ilaaliya buu oran jiray muxuu yiri ii soo sheeg anigu laba ninba horaan u sheegay labada nin ilaa laga qabto Soomaaliya hore u socon mayno anigu horaan u yiri muxuu yiri ninkii Talyaanigi wuxuu yiri maartay Portilla Bellissima perché due bastardi sono io wuxuu yiri labada yusba ku nool buu yiri Portilla laakiin waa magaalo fiican buu yiri wanaagsan dua bastarda Sooneeye buu yiri halkaas laakiin waxa ku nool labada Yuusba ku nool buu yiri waxaan leeyahay intay labada Yuus inagu dhex jiraan waxba inoo hagaagi maayaan waxa in labada Yuus inay iska qabanaa muhiima beesha caalamka waa inaan meel iskaga xidhnaa waxaan leenahay maarta ninka gacmaha gaaban la yiraahdo maartay Donald Yamamoto iyo ninka la yiraahdo maartay soo sheega James Swan labada nin in la qabto weeyaan waa inay shaqadooda iyo xafiiskooda ku eekaadaan waa inaynan u soo faragelin ayaa jirta arintaas waa arintii horena loo sheegay dawladda federaalka Soomaaliya ka hadashay qoraalada ka soo gudbisay waxaanu ka codsanaynaa in arintaasi uu shaqadaasi qabsado maartay soo sheegana ambassadorka Abubakar Baalle inuu ka shaqeeyo shaqadaasi
faragelinta shisheeye lagu hayo waa inay yareeyaan at least faragelin baa jirta waxa weeyaan dowladda federaalka Soomaaliya wixii la qabanayo waa gaar laakiin waxa weeyaan waa shaqada waa la kala leeyahay waxaan waxyaalaha intraalka ee faragelinta lagu hayo waa wax aad xaraana waxaan wanaagsanay weeyaan qof dad wax loo yeeriyo maniin waana arimaha keenaya waxa weeyaan kuwa iyaguna maartay soo sheeg inshid haya madaxa ulul markay nin Soomaaliyeed u yeedho ama ummad Soomaaliyeed u yeedhato diidaya laakiin nin gaal oo futaacad maartay u foorarinaya madaxa kuwaan oo leh warna hankii Soomaaliyeed ahayd maartay ku soo noqda hanka Soomaali ma laha Soomaali ma dhageysato maba taqaan ma dhageysato ee hankaagii maartay iyo wanaagaagii sharaftaadii ku soo noqo Soomaali baa tahay meel tagi meeshid muxuu yiri dabalay warigaaba gooji geela la darbaata la dar baata Soomaali baata warigaaba injiyadaada hadad magac xumo soo jiido iyo hadad magac wanaagsan soo jiido labadaba Soomaali baata waxa la yiraahdaa caruuri galgalato hadana guriga hooyadeed kula soo guriyo noqotay baa la yiraahdaa ciida ku galgalato hadana guriga hooyadeed kula soo guriyo noqotay haday noo soo noqdeen labadii nin ee soo galgashay ee ciidaha iyo meelaha kale wadanada kale ku soo galgashay wax loo soo dhiibay haday noo soo noqdeen waxa way Ilaahay mahadi waxaan leenahay waanu cafinaynaa laakiin waa inay habu socodka dawladda federaalka Soomaaliya iyo qaabka la qabsada ha ka dhicin salaamaha qaar lagu sigtaa jiray ha ka dhicina siyaasaddu maaha shaariisu waa xidhan maaha soo magaalada soo meer maaha ila chees maaha suuqa ila wareeg maaha taa maaha waxaan leenahay Axmed iyo Danow la qabsada wixii ka dambeeya waxa weeyaan dastuurka Soomaaliya wuxuu ku qoray ku ogoliyay kaliya weeyaan ma aha oo kale waxa weeyaan tanaan doonaya iyo tanaan doorbiday iyo tanaan diiday wax soconaya maaha reerku ku dagay maayo reerku wax ku dagay maaha waxaan leenahay halkaas aan ugu soconaya taas waxaan ku soo gabagabeynaya markaasi mahadnaqi iyo maartay soo sheegana hambaliyadii iyo maartay soo sheeg dardaarankii talasiintii iyo maartay soo sheega hoodo tusaaleyntii ra'iisul wasaaraha iyo dowladda federaalka Soomaaliya intaasaan kaga hadhaya waxaan u soo noqonayaa marka barnaamijkayga hore ugu socon doono qaybtiisa labaad oo insha Allah maanta aan aad iyo aad uga hadli doono inoo sheer garaya baalka waxaan aad uga hadli doonaa waxa weeye musuqmaasuqa ragaadiyay iyo afar jeebla uu ka hayo gobolka Awdal qayb uu bixiyay iyo waxa weeye iyadoo guud ahaanba aan ognahay xaaladaha gobolka Awdal uu ku sugan yahay maalin walba uu gadaafalada uu ka geystaan wada ogsoonahay waxa weeyaan waayo maartay soo sheegana afar jeeble waa nin u shaqeeya jabhadda haraaga taliska nugul ee sanam anigu taasan ilaahay qola maaha qabiilna maaha xabada ku dhacdaana waxa weeye waa nin munaafiqo u shaqeynayay waa cadow adiga ka soo horjeeday buu haduu la dilo anu waxaan aaminsanahay ma aaminsanayn nin qabiil ma aaminsanayn kama mid ah falaysa minni ma aha nin Samaroona kama soo horjeedo nagama mid maaha qolooyinka noocaas aan ka hadlaya ma aha mid naga soo jeedama Saleebaan waa sulx afar jeebla ah waa nin aad taqaano yaa tahay lama yiraahdo waynu wada ogsoonahay Saleebaan wuxuu ka yahay gobolka Saleebaan waxa weeyaan waa naadi waxa weeye naa'ib la soo dirsaday waa nin waxa weeyaan iyo soo sheeg daba dhilif la soo dirsaday oo lacagta ururiyo weeyaan gobolka Awdal waxa weeye Saylac min Boorama waxa laga ururiyaa oo habeen kasta laga soo xareeyaa $10,000 baa laga soo xareeyaa at least hadii lagu dhufto balka waran 300,000 baa laga soo xareeyaa sanad waxa weeyaan soo sheeg bishiis waxa laga soo xareeyaa lacag gaaraysa 300,000 baa laga soo xareeyaa walaalayaal war waxa weeyaan xaaladda ku jira waan ogtiin inaan xataa wadooyinayna haysan inayna biyo haysan inayna maartay soo sheekaabayaasha dhaqaalahaana cid u sameyn dekad laguma ogola waxa weeyaan airport laguma ogola waxa weeyaan soo sheek hormar iyo horsocod midna toona laguma ogola nin aan sareyntaada aan ogolayn tiisana hal meermarin inaan anagu maanta meel marino inaguna u sujuudno oo nidhaahno inaan wax la leenahay moodaan ma aha saad moodayn ma aha arinku baarlamaan arinku ma aha saami qaybsiga kaliya daragtaan ma aha xuduudihii waxa weeye waxa meesha laga saaray xaq waxaad u lahayd oo dhan kow waxa laga ilaaliyay dhaqaalahaagii awood ayaa laga ilaaliyay laba awoodiiba laga ilaaliyay saddex waxa difaadin aan ruur wax la ilaaliyo lagu sameeyay dhaqankaagii oo dhan baa maartay la kala qaybiyay salaadiintaadii baa la kala qaybiyay waxaad maraysaa halkii ugu dambeysay in lagu yiraahdo ogaaskaagu soo gali waay shalay taalo magaalada maartay Hargeysa waxa lagu soo dhaweeyay waa ogaaskii la maartay soo sheeg tol jecle hadda waa eeg waxa weeye waa aqaar yar
wallaahi waa bilaahi tallaahi reer maxamuud nuur baa ka badan reerkaasi ayaa lulooy ugaaskoogii baa lagu soo dhaweeyey adiga kaagana tuka cambaarlaad noqotay waa maxay nin wax lax walba halka isdhigtaa lagu qowracaa adiga halkaa isdhigay adigaa dambarsanaya halkaasi waxaan weliba idiin sheegaya anu hore ayaan u soo galay imikuun maaha waxa weeye barnaamijkan 8 sano ayaan in ku dhow ayaan wadaa 8 saneen wada barnaamijkaasi intaa waxaanu ku jiray iyo in ka badanba waxaan ahaa maartay soo sheeg dulmidiid xaq dirir baan ahaa xaqa gobolada awdal baan u dirirayay dalkaygii waxaan uga soo baxay oo la iga soo tahriibiyay oo la iga soo saaray waa dalkay wax kale ma ahayn ninkii ugu horeeyay baan ahaa ee ka hor yimid sirtii uu hayay ee madaxtooyadu hayayna uu la baqay ee magaalada Boorame in laga laalaadiyo la doonayay far iyo suul kaga baxsaday baan ahaa nin la qaban karaa ma iyanu ninkii fashiilayay baan ahaa Muuse Biixi iyo qurunka meesha uruursanaya ee maartay jeegamaystay maanta iyo heegada maanta meesha isku urursaday anu waxaan u aqaana haraagiya sanan kaadi baanu soo cabay oo anagu hadaa maxaanu soo cabnay ma taxliil baanu cabnay markaad adigu kaadi soo cabtay anu ma taxliil baan cabay marka ila meeraysay ka bixi weyday anigu iyagii baan la meeraystay runtaan idii sheegaya waxaan xaqiiq markaasi xuquuqda dadka gobolada awdal baan u doodaynay afartan cishaan u xidhnaa jeelka Boorama ugu jiray horey barnaamijyada waan ku soo celceliyay 40 cishay ahayd waxaanu gaadhay inuu adeerkaygu ilaaho isagoo ooyaya war Mukhtaar Qarno wax ka ma jiro maanta xaalad kale ma jirto adimadaada ceerso ama waa Hargeysa anagu kaaga ma daba iman karo ina cigaal alan baqal ugu ridaya waxa weeyaan wax kalena ma haynay waxa maanta jiraanu diidanayn arinta qodobada uu soo sameysay Maxamed Caji Ibrahim cigaal ee 12 maartay soo sheega qodobka 12aad iyo qodobka 14aad ee markaa sheegaya guud ahaan qodobka 78aad ee guud ahaanba tilmaamaya markaa in maartay dekaleeto madaxweyne uu ku soo maartay uu keeni karo 42 dekaleeto uu keeni karo madaxweynuhu uu siiyay ra'iisul wasaarihuna uu madaxweyne ku xigeenkiina uu noqday nin maartay soo sheeg saddex kaliya la siiyo noqday nin meel jaariyad meel joogto oo halka fadhida arimaa ku qodobka labaadan diiday waxa weeyeen ila meerayso wuxuu ina cigaal ku qoray waxa la yiraahdo Somaliland wuxuu ka dhigayba waxa loo reeyay cashuurtii bariga iyo maartay cashuurta bariga ama customiska ayuu wuxuu ka dhigay Hargeysa iyo maartay Wajaale iyo Gabiiley hoos imanaysa iyo waxa la yiraahdo Berbera war goboladii kale mee waxaasoo taasina markaa maxay qale waa deegaanka ay degaan oo kaliya arintaasoo dhawaa ila meerayso waxa meeshii yimid hadana oo iyadana markaa si timid in guud ahaan gobolka awdal lagala dagaalamay waxa la yiraahdo maartay dhaqaalaha in dekada ay dhistaan inay dhistaan waxa la yiraahdo maartay airportkoogi albaabada loo xiray ina cigaal baa nooraa markii la xiray daariyaalaad joogay ka maanta halka joogay waxaanu ognahay magaalada Boorama 1992 iyo 1993 hay'aduhu dhanba wada joogay ninkii yiri buu hayna cigaal hay'ad kale ma tagi karta meesha magaalo madaxda mooyaan marka waxa weeyaan waxaan anigu aaminsanahay wax la wada leeyahay ma jirto war reer Boorama ogsoonaada dusha ka ogsooni nin aniga waxa weeyaan hasha maandeeq maala iyo nin maartay soo xumaantayda ka shaqeynaya war dusha ka ogsooni waad ogsoontiin ma aha waxaan arkay halkan rag badan oo haqa taagaya siyaasiyiinta maartay soo sheeg fashilmay ee wahanta iyo dad badan oo waxaan qal taagayo le maartay soo sheeg ra'iisul madaxweyne ku xigeenkii baan la siiyay maartay soo sheegana makaahilo war waxna la siiyay ma jirto xuushaanu ka nahay muxuu yiri haddaan ma jeerteen u dhaxay magacu bay deeqbay Somaliland ma haddaan Somaliland ahay magacu bay deeq weeyaan war maxaa magacay deeqay muxuu yahay waxay deeqay ma jirto waxba ma wada liin waxaan wada leenahay saraadiya barwaaqana ma wada haysano nimcana ma wada haysano gobolka awdalna ninka la yiraahdo Saleebaan baan u soo noqonayaa Saleebaan waxa weeyaan waa ninka gobolka awdal ragaadiyay wax barnaamij mika wuxuu la soo baxay la yiraahdo ku qabso ku qadimaysid wuxuu marayaa markaa eeg shalay toole waxay ahayd inay ishaysteen isaga suldaankii maartay Cismaan Guuladu oo la soo waarido la soo diray buurta maartay faaraxood baa la isku haystay laba waxa ku xigta maalin walba jagu qof ku haysta waxaan idin sheegayaa waxa weeyaan waa hanti ururis
hantidii dalkan uu lahaa iyo cashuurtuu lahaa ee magaalada boorama maalin habeen walba 10 kun oo doolar laga ururiyo gobolka awdal 15 kun oo doolar baa laga qaadaa lacagtaa halkee la geeyaa warnimada hargeysa jooga lagu xineeyaa qaybna iyaga cuna ninkani waa nin markaasi u jooga beesha dhexe iyo SNM jooga meesha nin gadabuursi lagu tilmaamo maaha ciddii dishaana cid mag loo haystaa ma jirto anigu waa taasana aaminsana in laga dul qaadana waa naga fakaday 3 goor buu fakaday mar dambe naga fakan maayo laakiin ma fakanayo 2 goor buu gurigiisa ka fakaday oo waxa weeyaan ii soo sheeg ha doqontu way nasiib badan tahay wax ka nasiib badan ma jirto laakiin marka dambaanu qabanno naga fakan maayo kama fakanayo Awdal Movement Group ururka dhaqdhaqaaqa Awdal State kama fakan doono ninka aanu qabsan marka hore aanu dilaynaa waa labada nin ee ugu horeeya uu ka mid yahay maarta Faarax Jawaan ninka caloosha weynle tiimbaro ee maarta ii soo sheegara tiimbaro dabada kaga taalo gaal iyo muslim wuxuu yahay ma aqaan anigu waxaan leeyahay ninkaasi iyo masalaabaan ba naga fakar maayaan waxbaha tabaawicina waxaan leeyahay cid kastana taas ay idin sugaysa reer awdal waxaan idin sheegayaa waxa idin sugaya taawun bay idin sugaysa wallahi billahi guri walba oo laga qayrin doonaa guri kastana dhibaatadu way qabsan doontaa waxa la ninkan waxa maanta jooga garan waxa soo socda ma garto xaaladda maanta idin haysata waa xaalad xun waa xaalad aan anagu ku tilmaamo waxa idin baarteeji weeyaan waxa weeyaan gumaysi kii cadaaba dad badan baa aaminsan gadabursi gumaysi kuma jiraan way ku jiraan reservation baa u baahan yihiin way ku jiraan warniku haduunan gobolkiisa una dhisan kareen garoonna dhisan kareen waxuna dhisan kareen ma been baan isku sheegnaa hadaadan adigu awood aad leedahay ninka markuu leeyahay xor marka aad tahay waa markaad gurigaaga xor tahay aad waxa doonta ka sameyn karto guriyahaaga qolalkaaga waxa doonta ka sameyn karto intaan 4 naagood aad keensan karto laakiin ma keensan kartid dakadna ma dhisan kartid airport ma dhisan kartid waxa weeyaan dhaqaale inaad samaysatana waa laga dagaalamaya waayo waxyaalaha horumarka dhaqaaluhu waxay keenaan awood ay keenaan qofku hadduu dhaqaale yeesho waa waxyaalaha la iskala dagaalamo weeyaan waa qaab kaas baa meeshan socda gumaysigii maarta ingiriisku wixii wadi jiray baa maanta la dhaxlay oo la doonayo gobolada awdalna lagu haya anna waxaan idin sheegayaa war haddaba dad yahow madaxa sare u qaada wax fahma ka dhakada weyn low wax faham halka ay sartu ku qurunsan tahay garo sagaaradu waxa la yidhi budku markuu ku dhacun bay wax dareentaa waxaad dareemi doontaan wallahi inaan been idiin sheegina gobolka awdal inta uu ku eegyahay magaalada boorama bes baad ku eekaan doontaan gobolkiini waa la qaybsaday talooyin fara badan baanu ognahay waxaan ognahay midiyo idinku soo socdaanu ognahay waxyaalo badan baanu ognahay magaalada hargeysa la doonaya in lagu hayo laga maamulo magaalada hargeysa la doonaya fadhixun in laga maamulo magaalada hargeysa la doonaya caada in laga maamulo magaalada hargeysa la doonaya ceel sheekh in laga maamulo magaalada hargeysa la doonaya caasha cadda in laga maamulo magaalada hargeysa la doonaya in gaarisa iyo fiqi aadan iyo waxa weynii soo sheeg xariirad ba laga maamulo halkaas la maraya gobol saddexaad baa la doonaya waxa weeyaan nin hurdow raqba waa ragayga ragii hore rag bay ahaayeen Soomaaliyadnimada maanta taariikhda Soomaaliyeedna ka galay taariikhda islaamkana meel ka galay oo aynu ognahay masxafka ugu weyn ee maarta Turkiga hadaad tagto waxa ku qoran boqortooyadii Irfaad iyo heshiisyadii ay la galeen baa ku qoran hadaad Ingiriiska tagtana heshiisyadii boqortooyadii ay la galeen ugaashadu la galeen baa ku qoran waxa ku qoran oo kale oo ugu tagaysaa waxa weeye boqor ugaas Cali baad ugu tagaysaa ugaas Cali oo ku qoray qoraalkiisii uu ku qoray quraanka kariimka ah oo ku qoray markaasi kofayga khadka kofayga oo ku qoray baa yaala warda taariikh la sharaf la wada haydeen laakiin waxa tiin maanta liitaatiin dadka ugu liitaatiin waxa weeyaan gumaysiguna waxa weeyaan waa idigu naaxaya wallahi waa idigu naaxay qalwadii masbaa soo galay qalwada gooda soo galay waana idigu naaxay Somaliland baanu nahay ama Somaliland dabada shacabka u tumo ama ha u tuman ama basaas u noqo ama aaminsanow waxa weeyaan waxaad ogaataa maalin aan maanta lahayn waxa weeyaan way noqon taariikhda YouTube-ka aan gelinaya waa taariikh mu noqon doona in badan caruurta lagu sheekayn doona waxaad noqon doontaan dad la soo koobay xuduudahooda iyo deegaankoogina lagu soo koobo boorama aan dhaafsanayn baad noqon doontaan waxaad noqon doontaan dad ka liitaad noqon doontaan
dadka laga tirada badan yahay ee la sheego 4.55 baad ka noqon doontaan somaliland iyo eriyadeeda xaaladaha ay ku jirtaan iyo siyaasadaha adduunku waxa weeyaan isbedel siyaasadeed baa yimid way jirtaan waxa la yiraahdo waa la iska bixiya faalikada la iska saaraa faalikada laga saaraya waxaad noqon doontaan sida falastiiniyiinta dhagaxa ku dagaalamaya maanta darkiisan yuhuuddu ay dhulkooga isteegaameynta yuhuudda la yiraahdo maanta falastiiniyiinta isteegaameyntaas ay ugu socoto waxa weeye nin hurdaan nacay doob hurdaan nacay nin la sugayo maxaad sugi nin lagu seexdo ha seexan baa la marayaa maanta waxa la marayaa xaalad ma waxa weeye xilli wax la qarso maartay maanta la dhowrsado ma taagnin nin qoyani biyo iskama dhowro maanta waxaanu aaminsanahay in dadka gobolada Awdal inan iyo oday iyo islaan iyo intaba in loo kaco gobolkan Awdal wuxuu gacanta u galay qurmis dhalay buu galay gacanta qurmis buu galay wuxuu gacanta u galay haraagi eesnan buu galay heshiisya lala soo galay Djibouti iyo dalal kale ay la galaan dad kale ay la galaan iyo qabiilo kale ay la galaan ayaa lagu fulinaya maanta waxay maraysaa xilligii la fulinayay haddaba reewalow waa iga qorataasi anu horaan u sheegay waxa weeyaan qariirada la soo diyaariyay ee almis la yiraaho ee la doonayay in gobolka almis la yiraaho in laga dhax gooyo waa wax jira ama ogolo ma yeel laba markii hore lagu doodayay waxa lagu doodayay in Hargeysa laga mid dhigo goobahaas ay Hargeysa laga taliyo ceer sheekh iyo guud ahaan lagu haya ilaa ay maartay soo sheega bulaxaar ilaa ay maartay soo sheegana caada maxaa loo raceel maartay soo sheegana caashi cadda gul dhamaan in Hargeysa laga xukumo la doonayay fadhixun gabi isku wada dar in Hargeysa laga xukumo ayaa la doonayay laakiin arintii waxa la sameeyay jadwalkii baa la bedelay waxa la yiri gobol aan ka sameeyno meeshana isteegaameyn ku sameeyno ciisi iyo maartay Sacad Muuse ha lagu beero meeshaas waxaanu wada ogsoonay wax qarsoon maaha wuxuu ballan qaado loo saxeexay in ay ka furtaan mashruuc kalluumaysiga oo ay dad ka soo jeeda gabiilay ka soo jeeda ay doonayaan iyadoo ceelashiina imika la diyaariyay ceelashiina ceelkiina ay ka qodeen waxa kale oo laga diyaarinayaa mashruuc weyn oo kalluumaysiga net fish ba laga sameeynaya meel kalluumaysiga xarun kalluumaysiga laga sameeynaya haddaba halkeed aad ugu maraysaa deegaankaagii maanta waa lagu haystaa ku qabso ku qadimeyside maanta Afrika ninkii xoog luun baa ku dhax noolaan kara nin qalin baan wataa iyo huunoy deysiyana iskale ma soconayso hadal jilicsan nin raga kaama celiyo hoole kaama celiyo nin jilicsan oo hadal jilicsan huunoy de waxaan wada yeelano waxaasi socon maayaan hadal jilicsan nin raga kaama celiyo waxa la yiri ninku sahansaday kuma seegana waranka Musabbixi magaalada Boorama waa galay gobolka Awdal wuu galay Sacad Muuse waxay aaminsan yihiin libin bay siiyeen waxay leeyihiin gadabuursi maanta anaga gacanteeda ku jira dawladdiina gacanteeda ku jiraan waxa weeyaan hubna weyn meel bay dhigtaan dhaqaalihii wadankana waa musuqmaasuqeen haddaba waxaan idin sheegayaa reer Awdalow war halkaasi ku jiri maysan ka kaca heeriyada iska qaada rag bi Ilaahay idiga dhigay Saleebaan kan aad sheegaysaan aad ku meereysanaysaan labada Saleebaan baan idin sheegaya waa duwa bastarda sonoyo weeyaan Boorama bellissimo Awdal bellissimo barke duwa bastarda sonoyo weeyaan labada yuus baa dhex jooga labada Saleebaan baa la yiraahdaa waana labada basaasi ugu waaweyn Saleebaan Cawar iyo Saleebaan Afarjeeble labada basaas weeyaan Saleebaan waxa weeyaan waa jiir xagga dambe ayuu fadhiyaayo xagga dambe ka qaniinaya waxaanu ognahay dadkii congratulationka gobolka Awdal sameeyay jaamacadii dib baa loo dhigay sababta dib loogu dhigana wax kale ma waa Musabbixi nabad baan ka jirin xaalad baa ka jiro cabsi darteeda waxaanu wada ogsoonahay gobolka habeen dhaweyd inuu ka badbaaday dil buu ka badbaaday laakiin ka badbaadi maysid wallahi ma ka badbaadaynin Muuse ka badbaadi maysid dil halkan aan ku haynaa dil buu ka badbaaday laakiin ka badbaadi maayo kama badbaadayo mar dambe ka badbaadi maayo gacanta gobolada Awdal iyo Awdal State waad ku maqanta cid ku dishaba labadaba waxaad ku dadka ree maartay soo sheega aad la maraysanayso garxajis iyo Samaroonba gacantoodii kugu dili doonaan waxaan soo qabanaynaa habeen dhaweyd waxa weeyaan odayga waxa weeyaan dil buu ka badbaaday laakiin badbaadi maayo waxa weeyaan ciidanka waxa weeyaan soo sheeg niijaaga dangerouska sniperka waxa weey kama badbaadi doontid marka dambe kama badbaadaysid anagu mar walba waan joognaa meel kastoo joogtaan kula joognaa madaxtooyadan wallahi kula dhax fadhiya waxaad ku sheekeynaysaa sirtaadan uga
waxay nagama qarsoona dad wax u kala qarsoon yihiin ma reer awdalow waxaan idiin sheegaynaa war waxa weyn dadkiina dhinac ka raac dadkaaga dhinac ka raac waxaan leeyahay dadka maartay salaadiinta iyo nimanka maartay la foqo dadkaaga dhinac ka raac war waxa weyn dalkaaga iyo masiirkaaga iyo dadkaaga u soo noqo cidda la doonayo lagu xineeyo Hargeysa lagu xineeyo maalin dhaweed aad baan uga xumaaday gabadh yar oday weyn baa intuu soo garab istaagay gabadh yar oo meel joogo boorama mar jaamacada ka baxo waxba haysan oo meel iska ciyaaray wuxuu ku yiri adeer iduguna halkaasaad fadhidaan oo burka iyo baagiyaha cunaysaan qeyrkiina maartay soo sheeglan guruusalle iyo noocii u dambeeyay Hargeysa ku dhax wataan dee aabahood baa u shaqeeyay aduu maxaad u meel dhigtay muuse biixi baa raggan u shaqeeyay aduu maxaad u samay Saudi shacabka u tumaya ee Somaliland ha noolaato maxaa Somaliland yaa la yiraahdaa Somaliland saaq baa la yiraahdaa anagana lama yiraahdo maxaa diiday this is the other land the other state is the other empire the part of the other empire way waa qayb kamida other empire boqortooyadii empire bay ka soo hadhay dhulkana anaga iskale cid kama baryayno nin aan shalay toole oromada ka soo kaxeeyay oromada ka soo saaray inuu dhulkaygu qabsado wallahi na ka yeelinin nin oromada ka soo kaxeeyay oo oromada maartay reeran jireen oo dameerada ay ku rari jireen inuu maanta aniga yiraaho deegaankaygu ku qabsado ka yeeli maayo waan ogahay Sacad Muuse ana dameeraha ka soo kaxeeyay waxa weeyaan saldanad ma jirin saldanada gobolada awdal mooyaane saldanad kale hoos yimaadaan ma jirin waxa weeyaan nin guumaysi ku nool buu dulna ma lahayn aniga daaqsin iyo deegaan ba siiyay abtibaad igu soo gashay abti dambe ma jiro abti dambe waa dhamaatay marka waxaan idin sheegaynaa Abdullah Saad iyo Abdullah maartay soo sheegana maxaa Abdullah Abakor iyo Hussein Abakor iyo qolooyin aanu garanayn dad aanu garanayno deegaankan dan u kala hayn iyo niman la yiraahdo reer Nuux Ismaaciil la yiraahdo reer Samatariyo ayaa sheeganaya oo le anaga iskale ceel sheekh anaga iskale haddaba halkaas la taagan yahay dameeraha iyaguna duxmooda daaqo isma soo gaadho reerka Sacad Muuse iska soo gaadhnaa waa reerka reecareed iyo reer Yoonis reer la yiraahdo yaro meeshan imika maartay madaxa taagay imika laangaab ayaan anagu meeshan ku ogeyn laangaab bay ahaayeen wallahi billahi waxa la sii jiray marka xooluhu iyo baxo maartay beeruhu baxaan ayaa la oran jiray sakaadka la sii reerahan sakaadka siinaynay anu aad baan ugu xumay war ayayday aad baan ugu xumay Umar aadankii qolada noocaas ee aan sakaadka siin jirnay ee awowgay Sheekh Ibrahim oran jiray wareerku waxa weyn wareerkan gabdhaha ka qabnay wareerkii maarta abtigaan u ahayna caruurteena ha la siiyo ayaa maanta halka maraya halkaas uu maraya waxa weey laga badi maanta reer awdalow waxaad ku taagantiin maanta inaad dhaxda fartiga qaniintaan ayaad maanta maraysaan waxaan idin sheegayaa hadaba ka kaca anagu Soomaali baanu nahay midnimada Soomaaliyeed baan ku shaqaynaynaa dhul gobolkayaga cid daba fadhiisan mayno SNM-na manihin Somaliland wax la yiraahdo ma proof gareysnin mana aaminsanin for my life ma aaminsanin mana aaminsanaan doono waxa weyn ku 993 waxa weeyaan haday 60kii iyagu maartay qaldameen oo ay duufeen anaguna 993kii odayadu ila duufeen waxaanu saxaynaa haday ka saxayaan anaguna kana saxaynaa taasaanu saxaynaa weligaaba gooji dabalay weligaaba gooji darka dadka wad la wadaagtaa magaca Soomaali dadka wad la qabtaa wallahi baan ku dhaartay oo billahi inaad ku dhaartay inaad Soomaali meel uga baxayni meel aad uga baxaysaa malaha laakiin ila meeraysaad wada igu meerayso anagana nagu meeraysan meesid iga meeraysaa soo socota runta la isku imanaya ragba futu kusayn la siliisan banaanka wallahi waxa weyn toos baan u kala baxaynaa runtii waxa weyn arimaha noocaas jira saleebaanna wuxuu ka mid yahay nimanka maanta aad baan uga xumahay in maanta uu markaasi sheekh beledkii gobolka awdal uu maanta qayliyo oo ooyo dee adeer dad badan badabada saasa looga dhaganaa adduun waa weerar joogta la isma oga waa la isgaaraya saasa dabada la iskaga dhagan yahay ilaa iyo maarta sokorta casaydba dabada la isku dhaganaay la qabso oo adiguna waxaad samaysaa iska celi waxaan leenahay bahabar Cabdullaah soo fayli oo ciidanka maarta isoo sheeg ku soo biir adeer waanu ku cafinaynaaye waxaad ku soo biirtaa aadulistay waxaad ku soo biirtaa iskaga soo har Muuse biixiyo qolooyinkii shacabka daba tuman jirtay ka soo har anu taasaan ku leeyahay halkay maanta ku dhigay Muuse biixi isagaaba bilaabay sheekadan ku qabso ku qadimaysid baloorka isagaa bilaabay
marka waxa weeye saleebaan maanta beertaada inuu ku qabtay aad baan uga xunnahay lagana qaadan maayo waana laga gardaraya reer sheekh cali jawhar waa reerka lagu yimid gobolka awdal waa dadka deegaanka ah dad maaha maaragtay imika shalay soo degay maaha waa dad weligood deganaa reer axmed waxa weeyaan yarkaa yar aabaha uu ka soo horreeyey inax haddii uu ka soo horreeyey aabaha waxa weeyaan marka aad baan uga xunnahay arrintaas ila meeraysay baa socota waxa weeyaan waa nin la soo diray waxa weeyaan waa ku qabsi ku qadimayside ayaa ka socota waxaanu kaga baxaynaa nimanka la soo dirtay ee dabadhilifka gobolkan inaynu ka safeynaa la doonaya inaynu gobolkeennii iyo deegaankeenii waxa isdeegaamayntii falastiiniyiinta socota way soo tashadeen idinku waxaad sheegaysaan ugaaskan shalay toole yimid hargeysaad sheegaysaan ugaaskii ciise la doonaya in lagu soo dhaweeyey magaalada saylac baa lagu soo dhaweeyey ugaaskaagiina waa la diiday halkaasa la maraya haddaba markaad leedahay markaana lama guumaysto ma guumaysi baa ku hadhay nin gurigiisii loo diiday nin gurigiisa ma gelaysid la yidhi ma lama guumaystaa la odhan karaa waa la guumaystaa anigu waan aaminsanahay rag badan oo hadalkaa aaminsan oo aan xataa isku siyaasad nahay meelaan ka wada shaqayno isku mabda' nahay laakiin aaminsan baa jira mabda' noocaas anigu waxaan aaminsanahay wuxuu u baahan yahay meeshan u baahan tahay survivor never surrender ayuu ingiriisku yidhaha ninka maaragtay iisoo sheegana waxa weeyaan iisoo sheegan waxa weeyana silic uma dhinto qofka maaragtay saxariir uma dhinta silcaa saxariir uma dhintaa la yidhaha saxariir uma dhimanaysid waxaad u baahan tahay the man never give up ninka raggiis ma dhiibo ha isdhiibina inta maskaxdaadu ay soo jeedo oo aad mabaadi aad aaminsan tahay principle aad leedahay waxa weeyaan weli waad noosha ma dhiman wax noole nafta yaa u toobara naftan waxa la doonaya inaad toobarato guumaysi wuu jiraa laakiin guumaysi dadban ba laguga haya war dhulkiina u kaca waan idiin sheegayaa waxaad sheegaysaan meel yaroo sokaad ka hadlaysaane oo jagooyin saleebaan baa igu qabsiyay igu wadaane waxaa la soo socda gobolka awdal inaad idinku keliya waxaa la marayaa waxa la yidhaahaa xeer ay samaysteen oo 17ka la yidhahaa jira ina ciyaal baa sameeyey waa buuro dhulka maaragtay iisoo sheegaan waxa weeyaan hantida guud baa la yidhaahaa hantidee guuddii maada hanti guud haya hantidii guud sawdigan aad u biliiqaystay soo muuse bixi haysto sharciga siiye muuse bixi inuu maaragtay iisoo sheeg 100 wato 300 mitir oo haysto uu intaasoo jegana boorama ku yeesho hargeysa dhexdeeda sharciga waa kii dantii guud ba isaga haystee danta guudaad sheegaysaa la ilaaliya laleeyahay waa xeer ay samaysteen oo iyaga keliya nafaqeeyo weeyaan waxaan leeyahay ree awdal oo arrintaa idin wadi mayso saleebaanna waad ogtiin labada saleebaan baana waan idiin sheegaya duwa baastaarda weeye waa labada saleebaan baa laydhaa waa saleebaan cawar iyo saleebaan afar jeeble labaduba waa sulux afar jeeblaha waxa weeyaan waa nimanka gadabursilo waa basaaska gadabursi loo soo diray weeyaan basaasiin weeyaan u fadhiya halkaasi naa'iba waanu ognahay in carruurtayadii maaragtay jaamacadaha dhameeyey inay graduatorka ahaa in waqtigoogii dib loo dhigo laydhaa September dib baanu u dhigno xaalada amni dee muuse bixi baa loo dhigay war jaamacaddan muuse bixi ma dhisan anagaa dhisanay amniga iyo nabadeedana anagaa iskale waxaanu aad baan uga xunnaay waxa weeyaan jabhadaha gobolada awdalna ha u diyaargaloobaan dagaal ha loo diyaargaloobo afar halkaad ku joogtaan dagaal laabta ka ogaada waxa weeyaan haddii madaxa lagooyana mijaha meermeershan adlay manaa lay qarshaa midiyo lagu qali doono adaa lagu qarinayaa maanta midiyo waxyaalo badan baan ognahay oo aanu halkan aan soo marin karaynin oo aan halkan lagaga hadli karaynin war waxyaalo badan waxa jira midiyo qarsoon baa jira oo idigu socda xaalada isku gadaawan baa idigu socda isteegaamayn baa idigu socota deegaankiina waxaa la raadin doonaa dadka ree awdal in la yidhaha ka qaxaan wallaahi gadaafur baa la maqloo layidhi dagaaladii berigii maaragtay dhacay wixii ka dambeeyey dadkii ilatariya tegay gadabursi ka mid ahaa ee gadafur la yidhaha idinkuna qayb ka midaad noqon doontaan intaa etoobiya soo hadhi doonta meeshan dhul la qaybsadu noqon doonaa haddii aad ka tashan weydaan taladu mar weeyaan laakiin ogaada maridaga alla ay dagay mar labaad istaga ana istagabay yaxkoo haddaad mar dagateen isku noqda war taariikh baa meeshan socota taariikh baa isqoraysa taariikhda isqoraysa ka dhinac raaca annagu qaadan mayno walaa dowladda federaalka soomaaliya iyo soomaali waxay qabsanaysaanu ku qaadanaynin inay doorna qaataan 8 annagana la yidhaaho waxa weeyaan cad xun baad qaadanaysaan qaadan mayno qabiil la mid oo la soo taagan baana annaga iyo dhulbahanti iyo warsangeli qabiilo la mid oo la soo taagan baanu nahay haddii aanu heli weyno qayb aan ku qanacna aanu heli weyno qaadan mayno ma qaadanayno cad maaragtay isoo sheegana aan gumeed qaadan mayno ma qaadanaynana
lamana sheegin dadka la wareegayana ma jiraan labada aqal marka la isku diro dadka gobolada Awdal 17 kursi bay ku leeyihiin 17 kursina dhinac looga dhaqaaqi maayo dadka u dhuun daloolaanahay dadka u doodayaanahay dadka waliba imikana xildhibaanada u diyaar galoobay baanahay wallahi inaan ogolaanaynin sababta aan igu kaliftay baahi ma hayso ma doonayo Soomaaliya inaan ku soo noqdo dalkayga iyo dadkaygana u shaqeeyo iyo un baan u soo noqonaya wax kale ma soo noqonayo dadka gobolada Awdal dhibaatada haysataan u soo noqonaynaa waxaan leeyahay reer Awdalow war sidan si maaha waxa weeyaan arrimo badan baa jira oo laga shaqeynayo dadaalo fara badan baa la wadaa dhinacina dhinac ka raaca waa laba umbooyin dadku wax ka dhaxeeya ma jiro waa xusbu shaydaan iyo xusbullah inna al-xusbullah humul muflihun ikuwaasa aflixi doona iyaga qabsanaya wajaa haqa wa sahaqa baadilina kana baadila sahuqa baadilku tagi doona hadi si joogi maayo laakiin waxaan u sheegaynaa doqontaan la hadlayaa doqonta oo iskaranaysa doqon ha gargaarin hana gargaarsan baa leeyahay ilaan doqoni deefka ma kacday daamankay meermeeri waligaaba daba duslow oo basaas oo haw waanu ku qabanaynaa way ku qaban doonaan ciidanka iyo askarta iyo maartay soo sheeg maartay xoreynta gobolada Awdal ee Awdal State ciidankaasi ee Awdal Movement Group way ku qaban doonaan ka badbaadi maysid Muuse Biixina in yar buu nagaga badbaaday dad badan in badan banaga wallahi way soconaysaa ama argagixisa socota ama futa biciid baa socota argagixisadu waa adiga ina godana adu ka soo jeeda ha kan maanta haysta ee la leeyahay adu ka soo jeeda xagu ka yimid cidda koonfur qarxinaysa waa adiga argagixisada ee hoggaanka u haysta dadka reer Awdal ku tilmaamayo Faysal Cali Waraab argagixiso weeyaan argagixisa ma argagixisadooday ka timid inaan kaagii argagixisa ma been baro sheegnaa kaagii me Suuriya lagu dilay aad adigu dhashay adaa argagixisa Faysal Cali Waraab reerkiisa argagixisa uu ka mid yahay dambaro bad ka tahay kiyalka Daesh tagay la soo qabtay la dilay muxuu ina godana waayo wareen casnimada nagala taga wuxuu argagixisada iyaga terroristi iyaga amaartay argagixiso cad oo la shaqeeya oo ay ka mid yihiin oo guryaha laga dhisay Hargeyso argagixisa lagu dhisay waan ognahay lacagaha waxa loo mariyo dahabshiil tuug isaga loo mariyo anaga loo sheegaysan marka waxaan leenahay inoo sheer gareeya baalka sheer gareeya waxaan leenahay markaas insha Allah waxaan soo qabanayaa anigoo doonaya inaan ka faa'iideysto waxaan soo yar qabanayaa waxaan rabaa inaan soo yar qabto maartay soo sheegan xaaladii maalintii dhaweyd dhacday waxaan soo qabanayaa markaasi arrintan aan soo yar qabanaya yar suga in yar iyo dulqaata waxaan soo qabanayaa aynu ka horeyna Muuse Biixi Cabdi ayaa ka badbaaday isku day dil ama amniga Soomaaliland ay gacanta ku dhigaan qaar ka mid ah dadkii falkaasi ka dambeeyay
madaxweynaha Somaliland ayaa lagu soo waramayaa inuu ka badbaaday isku day dil ah oo la soo abaabulay kaas oo ka dhici lahaa goob xaflad oo loo diyaariyay inuu ka qayb galo xafladii qalinjabinta jaamacadda Camuud ee Boorama ayaa ku beegneed 20 September iyadoo dib loo dhigay kadib markii laga weeraray xoga amni oo la xiriira weerar lagu qaadi lahaa madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo qorsho ahaa inuu ka qayb galo xafladaasi ka dhacaysa magaalada Boorama ila lagu kalsoon yahay oo si dhow arrintaas ula socday ayaa Garaa TV u xaqiijiyay in hay'adaha ammaanka Somaliland ay ka weerareen qorshe dil ah oo loo maleegay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi marka uu yimaado magaalada Boorama waxay xuquuq tibaaxayaan in dib loo dhigay xafladii qalinjabinta jaamacadda Camuud muddo 20 cisho ah waxaana la qaban doonaa 10 bisha Oktoobar ee sanadkan warar lagu kalsoon yahay oo aynu helay waxa intaasi ku darayaan in sidoo kale hay'adaha ammaanka gobolka Awdal ay gacanta ku dhigeen 2 dhalinyaro oo lagu eedeeyay maleegitaanka qorshaha madaxweynaha lagu qarajin lahaa kuwaas oo jimicii ciidamadu ay qabteen loona dhaadhiciyay xabsiga magaalada Hargeysa madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo qorshaha loo soo gudbiyay ayaa dhinaca kaleetana aan waxa jawaab ka bixin dalab uu soo jeediyay gudoomiyaha jaamacadda Camuud Professor Saleemaan oo ku saabsanaa ka qaybgalka xafladda qorsheeda loo bedelay 10 bisha soo socota ee Oktoobar taasi bedelkeedana waxa uu soo diray madaxweyne ku-xigeenka oo ka soo jeeda gobolkaasi dhinaca kaleetana waxay dhalinyarada Boorama ay wadaan dadaallo ay dowladbaxyo uga soo horjeedaan Somaliland ay ku sameynayaan taas oo ay ku doonayaan inay ka hordhigaan jaamacadda Camuud maalinka qalinjabinta ila lagu kalsoon yahay oo ku sugan magaalada Boorama ayaa Garaa TV u xaqiijiyay in dhinaca Jabuuti ay ka soo galeen buundada calaamada Soomaaliya ah oo ay dhalinyaradaasi doonayeen inay salaamaan madaxweynaha ama madaxweyne ku-xigeenka haddaba mid ka mid ah dhalinyarada ka qaybgalaysa xafladda qalinjabinta ayaa xiisada ka taagan Boorama waxay ka curatay kadib markii dhawaan xukuumadda Somaliland ay diiday in gudaha Boorama uu soo galo ugaaska guud ee beesha gobolka Awdal kaas oo ka soo kicitimay dalka Itoobiya waxaa la soo waramayaa in xaaladdu iminka ay wanaagsan tahay ciidamaduna ay wadaan baaritaano ayna su'aalo weydiinayaan dadka ay gacanta ku dhigeen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaana la aaminsan yahay inuusan guud ahaan ogolayn in uu iminka xafladaasi ka qayb galo maadaama amnigiisa ay khatar ku tahay iyadoo ilaa 20 cisho dib loo dhigay lama amniga Somaliland wali ma aysan bixin waxaan wada ogsoonahay magaalada Hargeysa in maartay la sameeyo waxa la yiraahdo baaritaan aad u weyn iyadoo markaasi habeenkaasi markii uu warbixinta ay helaan guud ahaan markaasi sirdoonka ama hay'adda sirdoonka ee nabad sugidda maartay soo sheeg Somaliland ay guud ahaan helaan waxa magaalada lagu soo Hargeysa iyo Boorama iyo Gabiileyba lagu soo sii daayay ciidamada marka RRU-da oo guud ahaan marka magaalada tagaasida magaalada Hargeysa la baaray basaska la baaray maxaa sababay xaalad adag ba la soo gudboonaatay warar bay heleen waxaanu leenahay hadaba ama war hel ama helin annaga marnaba naga badbaadi maysid wallahi naga badbaadin gobolka Awdalna cagta soo saari maysid ugaaskaygi soo ma soo saari wayn car hadaad nin tahay muusoo kaalay hadduu nin ilaahay ka dhigay kaalayo soo istaag imow way ku fasaxan tahay Saleebaanka indhaha yaryar aad arkaysi adigaba waynu arkaynaa halkay galaan Saleebaan cabal lambar wuxuu sheegay haddaad arimahaad ku jirta joojin weydo Saleebaanow waxa ballan nagu ah la wada joogi maayo waa laga samrayaa wallah way ka samraan dadka waana lagu dilayaa baan ku sheegay meeyno ka talin maysid jaamacadana anaga dhisanay anaga adiga ku keenay shilin lacag ku maad gashan mushaar baad ku qaadataa wallahi inaad jaamacadan jooginin labada Saleebaanba gacanta maartay soo sheegana xaq u dirirka ciidamada xaq u dirirka gobolada Awdal bay ku dhimanayaan waan u sheegina labada nin ee ugu horeynaya ee lagu sadqeynaya ee SNM u shaqeeya ee dabadhilifka SNM haraaga SNM u shaqeeya waanu dilaynaa kuwaas ballan weeye taasi naga badbaadi maysid
saleebaanna mar buu naga badbaaday laba goor buu badbaaday weliba isaga iyo cabdiraxmaanba cabdiraxmaankii hore meeshan joogi jiray waynu ognahay ree awdalo waxa idiin hadhay ma jiro waad ogtiin gabdhihiina lagu maaragtay iisoo sheeg magaalada boorama waxaad gaadheen in maaragtay iisoo sheeg guryaha ay ka shaqaynayaane badha saabka inta lagu kufsado aanan cidba isweydiin gabadh bahabar cabdallah oo lagu kufsa cid isweydiisa ma jirto hoos baa loo maydhay inan yar oo guriga joogay oo cabdiraxmaan gurigiisa joogay ninkii maarata habar jeclo ayaa kufsadoo dhibaato gaadhsiiyey lagama hadal halkaasaad maraysaan qurun kasta inaad qarsataan baad maraysaan waxaa la yidhi waxaad qarsataa wuu ku qarsadaa waxaad qarsataa wuu ku qarsadaa dulmigii aad huursanayseen iyo qurunka aad huursanayseen baa soo baxay waa run ugaaska hadalku ka hadlaya deegaankayga waxa weye dad la haystayaala weeyaan waa la haystayaal anuu horaan u sheegay horaan u yidhi waxa weeyaan deegaankaasi waa dad la haysto adeer jeel bay ku jiraan gurada ka bannaan u tegi mayno ee jeelka gurada ka bannaan dadkaasi ma waxbaynu u geynaynaa waan booqanaynaa dad jeel ku jira inaan u tegayno ogow baan ku dhigaas oo dadka loo tagayo haddii loo tagayo inaad dad jeel ku jira u tegaysid ogaatid bam habeenkii qorshaanu ku dhacay isagoo goryo cel joogaan wacay wuxuu yidhi wallaahi arrintaadii sheegaysaa dhaba waa kii la soo istaagay markaaba maaragtay isoo sheegana idaacadda soo istaagay ee ka hadlay ee yidhi dadkayga waa la haystaa beena maaha waa la haystaa reservation buu u baahan gobolka wado uma baahna reconciliationna uma baahna reservation buu u baahan yahay we need reservation we can waan samayn karnaa anaguna haddii miduu naga hadhayo dhaqaalaha iyagu way ku burburayaan wallaahi gurigayga iyo jagooyinkayga dhaqaalahayga waxay o dhan ma ku iibinayaan beero waxaan leeyahay waxaan lacag leeyahay xoraynta gobollada awdal baan ku bixinaynaa waxaan ballan lagu qasnada waxa ku jira iyo waxaan haysaba dagaal waxaanu la gelaynaa toos ah SNM baanu la gelaynaa iyagaanu la gelaynaa dhulka iyaga ka bixi waayaan waa inay ka baxaan gobollada awdal inay ka baxaan weeyaan ree awdalowna ku talagala waxa la yidhaaho ka dhacaysa xaflad oo layskugu imanaya jaamacaddana ma jirto cabdiraxmaanow ballo waxaanu kugu xidhaynaa ban baanu ku xidhaynaa wallah haddaad joojin weydo wallaahi miinaan meel walba kaga xidhaya jaamacadda kaga xidhayna haddaad arrimaha boodda joojin weydo dayuus baad tahay waanu ognahay dayuus waxaa tahay iisoo sheegay dabadhilif ah SNM u shaqeeya dabaqoodhi baa tahay waan ognahay isaga iyo salaabaanba nagama badbaadayaan salaabaanoo naga badbaadi maysid ree awdal maanta way soo jeesteen dadkana maanta waxbay garteen dadku dadkii maaha dadkii waa maaha waa dad maanta soo jeetay dadku dadkii maaha saleebaanoo dadkii maaha ree awdal inay maanta noqdaan dhulkoogii iyo dalkoogii iyo dadkoogaba inay gabdhaha iyaga yar jeelasha ku jiraan oo la yidhaha duruucdooda buluuga nigisadooda buluuga maaragtay isoo sheegana maaragtay keeshaligooga buluuga googaradeeda buluuga iyo gogasheeda buluuga waar waxaa ka xishoon weeya yaa wax la wadaagi kara lama wadaagayno gabadh la xidha gabadh la xidhay leedahay gabadh la dilana gabadh la dilay leedahay ballan weeye taas waa lagu kala yaacayaa meesha lagu kala joogi maayo weeraraduna ku eekaan maayaan oo keliya gobolka awdal gabiilay bay ka dhici doonaan wajaalay ka dhici doonaan amniguna weligaaba meel kolba meel baanu ka ridaynaa ballan weeye taas ballan weeyaan inay ururi doonto hargeysa dhexdeedaanu kaaga dhex bilaabi doonaa hargeyso soo kulama degani maadaa keligaa degan hargeyso waan kula degana inaan kaa maqanaya moodin hargeysa dhexdeedaan idinkaga badbaadaynin xitaa wallahi aan idinkaga badbaadayn goor aad meesha ka baxdaba gacanteeda waad ku maqantay jabhadaha gobollada waqooyi waad ku maqantay gacantooda ballan weeye taasi ballan aan ilaahay axdii la galnay weeyaan weli waan nool nahay muusow haddaad moodaysa inaad dhimatay annagu waa kuwii baan nahay waad garanaysaa mukhtaar baan ahay mukhtaar dhiidhaan ahay ninkii maaragtay xasan yoonis abare kala baxay baan ahaa adigoo meelaad u raacda la wallaahi kuwaan buuriga ku dulcunay baan adigana buuriga ku dulcuni doonaa ballan weeye taasi ree awdal waxa weeyaan waar intaad dhulkiina qabsanaysaan waanu ognahay midiyaa idugu socda xaalado badan baa jira oo aan wada ogsoonnahay sirdoonno fara badan iyo dad badan baanu leenahay waxa weeyaan waa duruno mindhinow waa noo joogaan warka markaaba naloo soo gudbinayaa xaalado badan baa jira dad badan baa nala shaqeeya kamana badbaadi doono waxaan halkan hawada u marinayaa walaalahaya oromo ee aanu abtiga nooana waxaan u marinaynaa canfarta iyo maarta qoomiyadaha oromada iyo canfartana waxaan marinaynaa iyo soomaalida Itoobiya waxaan marinaynaa salaam baan u marinaynaa iyagana waxaan leenahay waan idin salaamaynaa sharaf iyo ciise ku noolaada
ree awdalna waxaan leeyahay xorayn baa laga doonayaa waxa weeyaan qaniya ka fujisa looma baana geed weyn ma baroorto geed weyn ma baroorto daacadnimo daacadma ninkee dishay muxuu yidhi caritarase muxuu yidhi wuxuu yidhi dowladnimo wuxuu yidhi guuleed ma daadihinaya dowladnimo ciise soomaaliintu kala dumay ma xabashi daaweystay waxaan leenahay isaaq soomaaliintay ka dudeen miyay xabashi daaweysteen SNM bay markay baxeen waxay daaweysteen waad ogeydeen xabashi bay daaweysteen miinooyinkay ka saari jireen ma aha niman dagaalama xitaa ma ahayn waxaan idiin sheegayaa miinada iyo dhulkii la doonaya lagu eegi jiray yoolbaadh bay ahaayeen miinada layskaga eego waxaan leenahay birgeedka layskaga dhigay ahaayeen waxaan leenahay markaasi wuxuu yidhi haddaan laga dambaynin muxuu jaarse gari ugu duulay buu yidhi ee gadabursigii daacadda ahaa haddana muxuu gaadhay war dadkii daacadda ah maxaad gaadheen somalilan hunoy dee nasiib waxaa iyaga heli mayne wallaahi laaban bay ka tahay hadal jilicsan oo dambe ma jiraan nabada wallahi hadal jilicsan oo allah yo nin daran maxaan daafta hore seexshay isagoonan dayme ilaahay maxaan kaga dayaansiiba soo socda dayaamiskiibaa soo socda imika waxa weeyaan saaca bisaaca weeyaan كل يوم جمعة معها مالي والبا جمعة معها ما أنت هو مالين تايدي it's our day ومالين تايدي ومالين تي ريزرفيشنكا ومالين تي أنقول يسن لها ومالين تي رياض اللي يقول يسن لها ين ومالين تي هرمر لقاري لها ويا وحكاه الريا وحان ديك لو دادنين لما ده يفصدوا والله عالم كأود الاستيد يقبل كأود الاستيد كنا ولان ميسان يلان ميسان dhaxalkeygana yeelan maysaan dhaxalka aad dadka la yeelan doona hadii aad dhiiga huri weydaan hadaad dhacaan ku bixin weydaan hadaad curada uga tagi weydaan bariyo wax kuma imaadaan wax bariyo la ilaa ma jirto waanu noo kala dhamaata bariyo ma jirto ma bariyo tamayno waxa weeyaan maalin walba qof inuu ooyo ina shaqala jawar inuu ooyo waa waxa inagu aynu ka dambeynay inuu cid walba ooyday inaga ka dambeynay maxaad sheegaysaa gadabuursaa jagaygaaysa war dhulkaagii oo dhan baa lagu haystaa waanu ognahay heshiisyada la soo galay ay ku Ismaaciil Umar Geelle iyo arimaha waynu wada ognahay waynu ognahay khadraxayd in nidaamkii la diyaarinayay wuxuu ahaa 2003 ayaa qorshaan laga soo shaqeynay 2010 ayaa qorshaan laga shaqeynay oo laga soo shaqeeyay waynu wada ogeyn samsam heeryaxum iyo waxa weeyaan iyo soo shirkii waxa loo sameeyay suldaankii loo calaamad saaray la oranayay sabaysti waynu ognahay maalin walba caamid ba loo calama saaraa waynu ognahay arrimahaasoo dhan baa socda oo jira waxa lagu heshiiyey maalin walba odayga masaajidku ka hadli jiray abasiiro masaajidku ka hadli jiray wadadii cadma la dhiseen wadadii ma la dhiso kan ma la dhiso wadaga looma soconay deegaanka iyo dhulka isteegaaminta Falastiiniyiinta waxa la yiraahdaa ka socdo meesha isteegaameyn baa ka socotay waxa lagu heshiiyey in la deegaameeyo in deegaankaasi la soo dajiyo niman Cabdullah Saad la yiraahdo in la soo dajiyo Xuseen Abukorka la soo dajiyo in la soo dajiyo kuwa qadowga deganna la soo dajiyo oo deegaankan la dakaano gubanka kuwa degan in la dajiyo oo la isteegaamiyo lagu talagalay waxa ay shir ku galeen ay ku dhawaaqay oo Musabbixi u dhawaaqay oo uu la hadlay shir isagu ka hadlayay waliba oo ay qurba joogtoodu qabsadeen waxa si toos ah looga hadlay in ay dhistaan oo ay ceelal ka qotaan oo ay mashaariic ka furaan waxa la ogolaaday in mashruuca waxa ka soo baxa in warshad ay sameystaan ay gabiil ka sameystaan waynu ognahay waxa ka socda guud ahaan ilma xarbina waxa lagu yiri deeg waxa weeyaan isoo sheeg hadaad sheerna siin weydeen annagu waxa weey falakadan idigu adkeynayna jiingad baan idiga daba sameynayna waynu ognahay maanta cid wada socotaa ma jirto cid wada socota isaaq ma wada socono islaalinaya waad ogtiin shirka ay labada beelood bantaanaha ku qabsadeen magaalada la yiraahdo Marad Bulad Goolli mataanu shirka waxa kala maaha cashuurtoodii baa la diiday waxa la yiraahdaa cashuurteena aynu ku dhisano dhulkeena yaan cashuur la bixin reeawdalna waxaan leenahay war qodobka koobaad aad gaadhaan diida cashuuraha bixinaysaan renaa islaan kastaba cashuurteeda diido waa marka koobaad cashuurta diida cashuurta guryaha aad bixinaysaan iyo macaashka diida waxa weey waxaanu bixinaynaa ma jirto maxaa lagu bixiyaa maxaa lagu qabtaa wadada lagu dhisaa maxay tahay salaabaan nafar jeebliyo waxa ku nool dayuusiinta Hargeysa degan ee maartay caruurta lagu xinaynaya ku nool cid ku nool ma jirto cashuurta yar islaanta subaxii soo kalacday dhaqaalaheegii ilmaheegii maartay ku soo dadaashay jaamacada kaga soo bixisay halka bajaada maartay qaarkood bajaadin lagu dalacay la yiri ma shaqaysan kartaan
بورا ما وضع دول فردية مارتي سوشي دخل موايس وضع دول فردية تهريبك قار مارتي دل يدد بولا تهريب يعني وحن لنا يمركز قبل كينو وحويا maxay ku nuugtaa buu yiri maxay se ka nuugtaa waxba kuma irmaana ceelna kuma qodna cidimna maartay kuma maqna waxa weeyaan raqba waa ragayga rag baa loo baahan yahay maanta ragii turqiyada adkaatunkooga libaxaha rag baa loo baahan yahay curada inaan kaga tagna weeyaan halkaas hadaa doonaysaan Outland Empire adal Empire dib in loo soo celiyo boqortooyadiin iyo deegaankiina aad muuqataan waxa lagaga tagayaa waxa weeyaan wadaan dheecaan iyo dhiig baa lagaga tagayaa waa in curada loo xuraa وين ركب بدن أو ضيالا ودنتان وين تد بدن أو مارت بساسين اللودلا وإن أنا الصفينا ما شاسي وحوي تاسا لقى بحكرة لكن وحيسي هون يوحن دونا يا مارت أنا وحن دونا يا مارت يسوينا سيسو سامي غيبسي واحد سامي غيبسي ولا مجرو ورينا وسعي نيكلا لا مارت محمد سعيدو هرجيسا كسو بخدير بنت اسكدا حداد رون شيغيسو قريغا قادو halka bax annaga anoogu sheekeyni waxaasi sida gabdhaha yar u sheekeeyaan anoogu sheekeyni markaad geel dhaqata gacmaha loo soo xusha gacmaha ku idinku jira markaad geel dhaqato ayaa gawaha loo soo xusha maxaad haysataa markaad anaga nagula hadlayso ee aad nala soo hor taagan tahay ee aad leedahay isoo sheeg waxa weyn adduunku wuxuu maraya waxa la yiraahdaa maartay isoo sheegana globalization buu maraya wada globalization waa maxay war adduunku xoreyn buu u baahan yahay reservation buu u baahan yahay uma baahna wax kale adiga iyo ninkala unity ninkala yiraahdo istaba socda waxa weyn waxaad wadaan ma aha waxaad doonaysaan waxa weyn maartay anagu waxaan nahay mucaarad maartay soo sheeg xaq jira ee mucaarad muxaafid mani mucaarad muxaafidnimada hadaad la soconayso kulmiyad shalay ahayd kulmiyad shalay markaad ku jirtay maanta farta dhexda ka qaninaysa marka xilkii laga eriyad ooyeysa looma baahna haday dhabka tahay in aad ree awdal u qabato qoriga qaado banaanka u bax caruurta halu gooynin been ha u sheegin waxa weey awdal waxa u baahan yahay reservation buu u baahan yahay gobolkeena waxa weeynu gaaxdeeda aan nuugi doonaa iyo barwaaqadeedii iyo maartay soo sheegan waxa la yiraahdaa maandeeq gobolada awdal ay jaqi doontaan oo caruurteena iyo horumarka maartay soo ka shaqeyn doona marka dhulkeena aan xoreysano difaaceena aan qabsano xuduudeena soo xoreyno deegaankeena iyo gobolkeena iyo Outland aan dhisano maamul inagu aan leenahay inoo gaara cir iyo dhul meeshaan doonaan ku darsano anagu aan dhisano anu aan leeyahay war maanta reewdooda waad ogtiin maanta Soomaaliya waxa ka taga reer Soomaali qabiil way dhaafi weydi reer kastaba meel buu isku maamulo cid kastaba meel buu isku maamushay galmudug waad aragteen Jubbaland waad aragteen majartaan iyo Cali Salebaan waad arkaysan halkay marayaan war maanta maxaa idin diiday deegaankiina inaad idigu qabsataan oo wax maamulataan sideen u daba fadhiisanayna anagu aysan daba fadhiisan mayno sideen noqonaysaa han siyaasadeed waxa weey siyaasiyiinta bilaahanka yaan lagu daba tukan salaada anagu waxaanu qabnaa taasaan u soo jeednaa ballan bay nagu tahay ilaa ka ugu dambeeyo uu naga dhimanayo meeshaas waa la wada galaya qurba joogta waxaan guud ahaanba maamulkii Outland State maanta meeshay joogaan ma joogaan waxay furinta hore joogaan waxa la qorsheynayaa waxa la diyaarinayaa istiraatiijiyadii iyo dagaalkii lagu soo gali lahaa iyo qaabkii loo gali lahaa wallahi inuu qof naga dhamaanay qof naga hadhayni gobolka Outland cashuurna lama bixin doono cashuur dambe oo bixinaysaan ma jirto diila cashuurta albaabada ka xidha waxa weeyaan barnaamijyada la wado mudaharaadka maalintaas uu soo wada baxa magaalada dhalinyarada isku soo baxaan waxa la yiraahdaa Soomaaliland calanka Soomaaliland baan sameeynaa istiigaradiina waanu diyaarinay guri walba ku dhajiya soo idigu iska maleeyeen guriyaha macid kala iska laha reewda 800 qof baati 800 kun qof baatiin فرمتو إلا لو يعدو إلا يهلك دقنتين نيول بقى كل شيء ستيكر كيما يدي ديارنا Outland State Outland نب على الصومالية we are the Somalian we are the Outland وحلا يراها متشة الصومالية على الصومالية نقوله دافية وحوين إن صورة كب يحركي قبل السطورة كب يحركي قبل السطورة ما دون إنه وحما وضع لهانا إنه نيول بقبل كيسية ديجان كيس هايش وحان وضع لهانا إنه مجلتو halkaas ku dhamaatay doorasho iyo warkayga iyada wax wada lahaansho la yiraahdo meesha ka baxaysa reservation wax la yiraahdo ma jirto reservation baan sameeynaa waxa la reconciliation kama dhicin deegaankan muuse biixi baa maamula oo 800 qof dilay maalin walba halka inamadii markay noqoto February March April 20 ay halka la soo baxaan maalintii la xasuuqay dadkooga ee u soo baxaan baa la oranayaa laga qabanaya waxa wax soconaya ma waxa weyn qaniya ka fujisa haddaad rabtaan inaad horumar gaadhaan waxaad horumar ku gaaraysaa marka hore
وإن عرضة كجتك صح الكاس عرضة وين كجتك survivor never surrender بيدي أورتين بالغها يا وحوي ما هي وكتجي ويان مانديلا وكتجي ويان وحوي survivor never surrender the man never give up نكرج اسمه إيجو وحوي stand up for your life نلاش هذا وصركع ريا أوضل ويل أوضل بان الله يا ويل كده برسي بان الله يا على الإمباير دين كسول شيء الله يا هذا حلال تهاي وصركع ديجان كأجا والله عدكو حري ليس مجرته وحنا قندون صار دبر دليف يدد ما أرتكود دبتو كذا والله لفت الله توران قندون صار قبل كوضل شرفكم ما يسدي عيسكم ما يسدي وحنا وقنا ديجان مين بس عطاء وحلا الربا وحلا يراها إن قبل لقد حصار المثل يراها لدونيا برنامج هذا سال قرشي دب الله دقي بيش أفراد بلا شيء وإلى حقوقنا وما أرتيسو شيء الدبلوماسية يرهلي قرالة دي بقى حتى ليلة سوق قدبي وحنا قدبني قرال كوسيدي سيان قدبني وحوين دعوان وفرني وحوين يسو شيء أضل أو مارتي وحوي واحد دلد وين ومركاسي كتها لحفيز كي يقولون تورنتو كيالو والله يراها مركاس ودوديسا ومركا ودود الرئة أوضل يحقوق دودا مركا وحلا يراها مارتي يسو شيء وحلا يراها أضل ديفلوماتي مارتي يسو شيء أفوكيت legal بلا يراها legal marka waxa way ururkaasi waxa u dagaalamaan waa urur u dagaalama markaasi looyaro badan aan diyaarinay waxa weyn dacwadahaasi way ku socdaan dacwadaha musabbixi laga geeyay iyo SNM iyo gadaafaladay ka geysteen iyadoo la statementigaas waa diyaar waxa weyn iyo soo sheeg dacwadaasi waan diyaarinay waanu haysanaa reference card kiibaan haysanaa guud ahaan dacwada way socotaa dambiyadii laga geystay from to A to Z ilaa kuwii ugu dambeeyay la dilay ee musabbixi ku dilay maartay soo sheeg ayaa ku jira professoradu ku jireen oo ku jiray maartay soo sheegan cali bagaashan ku jiray ayaa ku jira xitaa waxaan idin sheegaynaa marka waxa loo baahan yahay waxa weeyaan war xoreyn baa loo baahan yahay uma baahanin waxa la yiraahdo waxbaan wada leenahay waxba ma wada lihin Somaliland SNM baa iskale SNM baa soo dagaalantay anigu shaqo kuma lihi waxaan ku leeyahayna ma jirto SNM marka Hargeysa ka maamulato meeshay ka maamulanayso Hargeysa iyo Berbera iyo Burco ha ka maamulato Sooliyo Sanaag wala la dagaayay Sanaag wala la dagaa waliba tog dheer baa qayb la dagaa cid ka yeelaysa ma jirto waxaan leenahay anagu dadka ree awdalow sarakaca ree Sooliyo Roos ree Sanaagna waxaan u sheegayaa waan ceelna idima qodna idima maqna waxa xaqiiq ah waxa la yiraahdo Somaliland iyo Puntland waxa idiga dhigeen waxa la yiraahdo dhulka la isku haystaa loo bixiyay dispute area u bixiyay waa wax beesha yaala annaga ugu tagnay annaga aragnay dooda la isku haystaan oo aragnay oo leeyihiin dhulka dispute area laga dhigay waa in ciidamo la geeyaa maartay soo sheeg Amisom si ay u badbaadaan dadkan waa sababta la keenay Ethiopia in tababar lagu sameeyo haddii khultooyin ka dhacaan in ciidamo la soo gelinayaan waa barnaamijka dhawaan ay Somaliland ka fulinayeen maartay soo sheeg dhawaan waanigii halkan ka hadlayay maxaa igad keenay maartay soo sheeg barnaamijka igad maxaa keenay iyo hay'adan la yiraahdo UK aid la yiraahdo maxaa keenay maartay laascaanood in ay seminar ka furaan seminar ay ugu magac dareen markaasi maartay soo sheegan ahaa khilaafaadka iyo maartay amniga iyo khilaafaadka nabadda iyo khilaafaadka ugu magac dareen waa maxay waa barnaamij la doonayo in lagu celiyo ciidamada iman doona way taala arintaas hadaba ree waxaan leeyahay ka xanaaqina waxa la yiraahdo dispute area way idiga dhigeen iyaga doonaya laakiin ma tiidin dad deegaan degan yahay oo dad degan yahay weeyaan waxa degan dawladii waxa weey waa meel taariikhda Soomaaliya ku leh oo kowka ah oo ah waxa weeyaan dhulkii uu deganaa maartay soo sheegana Sayid Cabdulla Xasan waa dhulkii maartay soo sheeg waxa ku yaala ahraabtii iyo maxaa la oranayay soo sheegana dhismihii uu ka tagay dawladiisii baa ku taala waynu ognahay dhul waligeed deegaan oo degan yihiin weeyaan waxa weeye goboladaasi Sool iyo Sanaag iyo Cayn ururo waxa jira aanu ka midaysanahay oo u dagaalamaan niman siyaasiyiin oo meel walba aan isugu nimaadno xafiisyo badan isugu nimaadno nimankaas oo niman dagaalamaya waxaan leenahay war garab istaaga war waad ogtiin garaadkiina shirki ka dhacay boocama wuxuu ka hadlay waad ogeydeen wixii laga wada hadlay waad ogeydeen waxa weeyaan si aad u xorowdaan idinku waxa weeyaan midowga gacmaha isqabsada laakiin idinka qayb kamida ayaa qaybna Puntland raacsan tahay qaybna Somaliland raacsan tahay ma been baan isku sheegnaa laba kooxood oo midna xaggan u soo kala jeeyo midna Puntland oo ka qaraabanayo midna xaggan weeyaan karaashna waa halkan jooga halkanna waxa weeyaan ninkii la oranayay Sibaariyaanka aba jooga anu ma aqaanay Salmaan Yusuf Ali Koore
iyo maaragtay faratonio rag badanoo halkaasa iyo kan muraayadaha xidhan ee marsangeliya mar walba halka soo istaaga nimankaasoo dhan baa jooga iyo nimanka indha indhiyo waan idiin sheegayaa marka waxaan leeyahay rag badan kuwaasoo keliya ninka la yidhaha iskana ilaawa ninka la yidhaho faysal cali ninka la yidhaaho professor cali khaliif galeed he cannot be leader ma noqon doona leader ninkaas kumana fiicna jaamacadaha iskaga noqon dhahadeer adarweysadaada iska qaado dadka ka dhaxba somalilantaada adar wax kale u muhiman inuu ka lufluftuu doonayaa bas wax kale u muhiman waxaan leenahay midnimada Soomaaliyeed bay ayaa sareeda leh taas laga shaqeyn doona anaga gobolka iyaga ballan weeye taas hadii qof ree awdalka ugu dambeeyo uu dhimanayo waxa ballan waa inaan dagaalkaas sidaan u galnay weeyaan wax soconaya ma jirto Muuse Biixina haduu naga fakaday maalinta naga fakan maayo cidda ku xigtay arintaan u fulinayna waxa weeyaan anigu waxaan ka mid ahay saraakiisha arimata kala shaqeysa waxaan ka mid ahay wariba qaybta difaaca aan u qaabilsanahay waliba waxa weey la taliyaha madaxweynaha arimaha difaaca ayaan ahay waxa weey soo sheegay xiriirka caalamiga runtii waxaan kala talinaynaa arimahaas oo dhan wixii difaaci anaga deegaankayaga iyo waxa weey waxa la dhahay istiraatiijiyad military istiraatiijiyad ban ka leenahay waanu ognahay geographical ahaan iyo meeshii laga soo garay cid noo sheegaysa ma jirto waxa weeyna hadii dagaal la oranayna dagaal waanu soo galnay Soomaaliland faa'iidaan ku qabnaa ma jirto wallahi billahi dib baan u qoomameeyaa waxaan saraakiishii ugu horeeyay xasan yoori sabana ka qaaday waxaan ogaa ciidan gal oo la kari waayay nimankii ka saaray baan ahaa Soomaad garan nimankii ka saaray baan Hargeysa ciidan gale garxajis maanta nimanka la sheegayo ee ka cabanayaan nimankii ka saaray baan ahaa waxa Muuse wali maanu dhiman annaga nool wallahi baan ku dhaartay inaadan maartay nolol ku noolaanaynin gobolka oodalna dib dambe adag ka mid noqonayn ka mid noqon maayaan ka tirsanaan maayaan sida u bilaamatay weeyaan waanu soo dhaweynaynaa aad baan uga xunnahay waxaanu gadaafeynaynaa in dadka ree awdal ay ka kici waayaan oo ay mudaharaadi waayaan sargaalkii maartay ka tirsanaa marka jabhadda ka tirsanaa ee marka cawaale ninka kaliya ku jira ee la qaaday Hargeysa la gaayo war ma maxkamadda Boorama la saari waay gaarigii suldaanka la qaado waxa la yiraahdaa Hargeysa la geenaya ma Hargeysa laga maamulo gobolka awdal sidee u dhici kartaa maxkamad gobolka iyadoo taaleen Hargeysa laga qaado leeyahay halkaas la geenaya waxaan leenahay taas waanu aaraynaa isaga annaga dhimala jeel hadii ku jira niman badan baa u dhiman doona saraakiil badan baa u dhiman doona oo ka tirsan oo cid walba leh ayaa u dhiman doona sargaalkaasi waxa weeyaan waxaan leenahay sharaf iyo cisi jeel nin ragaa loogu tala galay waxaan leenahay ogosoonow waxaad u jeelka ugu jirtaa adiga iyo gabadhaba maartay soo sheegay deganba waxaad ugu jirtaan xorriyadda iyo maartay gobolada awdal xorriyadda Soomaaliyeed xoreynta gobolada awdal baad ugu jirtaan cid kale ugu jirtaan waanan idin ogsoonay laabtana wada ogsoonay waanan idin aaraynaa haddaad jeelka wax ku noqotaan kuwii idin aarayay baan ballan baanu ku qaadaynaa dad badan baa loo aari doonaa waxaan leenahay waanu ka jawaabi doonaa arrimaha noocaasa waxaan leenahay anoo ku hadlaya afka Awdal State iyo ururka maartay soo dib xoreynta gobolada awdal waxaan leenahay Awdal Movement Group waanu xoreyn doonaa insha Allah waanu ka codeynaa laakiin waxaan doonaynaa war wuxuu raqbo war ragayga war garab weeyaan inkastoo nin geesiya ragu geedadeeg yahay haddaan garabka laga qaban gurigoodi maayo waxa weeyaan waxa la yiri waxa weeyaan baa la yiri soo sheega geesinimada lagu sheegaya waa in yaro lugta dhulka lagu hayo ragnimadu wata adoo kor saaran kaara weyn ma kaga tuuri karabiin bay imanayso Soomaha ciidan ha Muuse Biixi futayar iyo futaweyn Allah isbaday ballan waxaan ku qaadaynaa hubna waan idin haynaa annaga waxa ballan waa inaan xiriir meel walba la sameeyno sidii hub iyo ciidan aan u keeni lahayna ka shaqeeyno gobolka awdalna xorriyadiisa iyo ummadda Soomaaliyeed calanka Soomaaliyeed iyo calanka awdal istaag laga taagi lahaa ballan nagu ah taasaan ballan ah waxa weeyaan cunta naga dagi mayso waxa weeyaan habeenkii hurdo ma seexano waxa weeyaan shirar badan baanu galnaa hawlo badan baanu galnaa ree awdal waxaan idin sheegnaa waan idin maqnaa laakiin garab baan idiga doonaynaa waxa la doonayaa soo garab istaagtaan inkastoo nin geesiya raggu geedadeeg yahay inkastoo nin geesiya raggu geedadeeg yahay haddaan garabka laga qaban gurigoodi maayo waxa la doonayaa inaad la soo garab istaagto waxa la yiri xiniinita adiga kugu taala maaha waata lagu garab taagan yahay waxa loo baahan yahay saad baa loo baahan yahay ciidan baa loo baahan yahay waxa loo baahan yahay garab istaag waxa la doonayaa taageero dhinac walba leh waxa la doonayaa dadka qurba jooga ee gobolada awdalna halkan waxaan fariin uga dirayaa war meel kastoo joogtaan war waxa weeyaan afar group waxa weeyaan sameeysta tashada isku yimaada war waxa weeyaan nin loo tashado maxaad sugi islaantii maxay tiri afarta doqmo dhashay hooyo madaxiis geliya cadowgeeda ugu soo socdaay maanta waxaan leeyahay raawdalo tashada
waxa weeyaan cidda qurbaha joogta waxa laga doonayaa dhaqaale waxa laga doonayaa inaad meel kastood joogto inaad dacwad bilowdaan in dhibaatada jirta aad gaarsiisaan waad ogtihiin waad degantihiin meel walbaad joogtaan war Stockholm baad joogtaan war dhibaato kastoo dhacdo gobolka mudaharaad ma soo baxdaan iskuma timaadaan maxaa tihiin markaas ma beritoola dadka dabad istaagi doonta dadka ugu horeeya ee doorashada doonaya ee maanta halka ka cararay ee Somaliland doonaya doorashan ka qayb galinayay qurbay ka tageen waxaan leenahay kuwaasi soo ureeya nin kastoo idin yimaade kursiga doonaya ee aan doonaynin xoreynta gobolada awdal aan doonaynin danaha gobolada awdal war masiirkani ma aha masiir maanta ma aha waa masiirkii futurkii mustaqbalka soo socda weeyaan mustaqbalka iman doona weeyaan waa masiirkii inankayga weeyaan waa masiirkii waxa weyn generationka soo socda weeyaan waxa maanta la doonaya oo la rabaa in maartay beesha isaaq ay ku tashadeen inaanan dekad laga dhisin gobolada awdal heshiisyada la galeen weeyaan bay kamid tahay waxa weeyaan waad ogtahay mugrashid miya mugrasaaq miya inta kala marootiba waxaad ogtahay in la yiraahdo dekad iyo meel kaluumaysa laga dhiso xiisiya mayd gobolka awdalna lama oga marka tiri dekadaadii baan dhisanayna waa la aasay waxa lagu yiri soo sheegay luqaya waxay ka tirsantahay Hargeysa hooyadaa bay ka tirsantahay oromadii ku dhashay meeshay ka tirsanayd bay ka tirsantahay wallahi billahi inaan loo kala bixin maayo taasi ballan baanu ku qaadnay dagaalka waa la gelayaa mid yar iyo mid weynba annaguna waxa weeyaan meel dheer iyo meel gaabanba waan u gelaynaa geed kastana waan kaga hor imanaynaa Somaliland ixtiraaf la yiraahdo sheegaysaan dacwadahaasi way socdaan waxa weeyaan waxaanu ka wada hadalnay khilaafaadka ka jira deegaankaasi inay ka baxaan SNM ciidanka ka baxaan inay ka baxdo gobolka awdal SNM ee ku soo gashay 19 ilaa imika maanta joogto heshiis waxa la yiraahdaa ma jiro waxa heshiis la yiraahdaa oo reconciliation aanu ka heshiina ma jirto heshiis haday ayaan banaanka soo dhigaan heshiiskaanu galnay ha soo dhigaan heshiiska gadabursi ay ka saxeexaan ha soo dhigaan annaga heshiis maanu galin muxaadadaad lama galin laakiin wuxuu ahaa heshiis iyaga lagu heshiisiyay buu ahaa saddexdaan nin ee maanta taagan ee dhakada waaweyn leh saddexdoodii un bay ahaayeen waa maxamed xaaji ibraahim cigaal iyo maartay soo sheegana Umar Cabdi Qaalib iyo Cabdiraxmaan Tuur ba meesha ku tartamay iyaga lagu heshiisiyay Boorama shirkii Boorama shirba ma ahayn shar madoobaha ayuha ninka toontiga iska batagay waxaan leenahay daahiriyada markuu joogayna waa taynugu halka uga tirinay gabayada weydeen malaha waan dambaabnay daahir madaragod lu seexday darigodli in daragod la seexday iyo berbera seexday buu ahaa haddaba markaa waxa weey walaalayaal insha Allah waxaan loo doonayaa inaan arintan ka shaqeyno in arimaha laga shaqeeyo in laga wada tashado tashi fara badan bay nooga baahan tahay arintaasi in badan baan ku jiray waa xilli dambe waa maalin shaqo birtoole waan ka baxayaa kulay laakiin waxaan isnoo ogay barnaamijyada dambe aan soo geli doonaa war waxa la doonayaa meelaha jira war waxa weeyaan in la isla socdo in laga shaqeeyo dadka qurba joogta ee qurbaha joogo ka shaqeeya dadkiina walaalaha sida aad gargaar ugu noqon lahaydeen sida aad xafiisyada ugu noqon lahayd war meel walba waad ka shaqeysaan ogtiin wadankan Sweden waxaad ka tihiin golo deegaanada ka shaqeysaan meel badan baad joogtaan waxa weeyaan soo sheegan waxa weeyaan qaar kood dawladaha masiira meel fiican ka tihiin waxa weeyaan qof walba xafiisyada meel kasta aqoon baad leedahay waad ka joogtaan dacwada ayaynu gudbinaynaa waxa weeyaan mid labaadna dacwadaha inoogu wadna iyo waxaan isla daba soconaynaa sidii xiriidaan u sameyn lahayn sidii maartay deegaankeenan xiriid loogu sameeyay dawladaha daneeya ee Somaliland ka soo horjeeda aanu xiriid ugu sameyn lahayn ciidamo fara badan loo sameyn lahaa annagu waanu ka shaqeynaynaa waxa weey wadano badan baan la kulmaynaa insha Allah way bilaamatay dalka ugu horeysan way bilaamatay waanu keenaynaa wallahi aan noqonayni masarna ma imanayso cid kale ma imanayso waxa weyn deegaankan cid la keenaya ciidamo badan baanu keenaynaa ama cir iyo dhul meeshan ka keenaba waxa ballan lagu ataa muusabiixi waa lagu kala baxaya waxa weey ama arab keenso waxa la yidhi arab muxuu yidhi maartay soo sheegay ma dhaciyeerka iga daabu yidhi arabi waa naagay ninka arab dabada saaray annaga waxa weeyaan inay naagayiin baan u naqaanaa waxaan leenahay carabna wax raasi weydiin mayno cid kale weydiin mayno laakiin cidda kale ka soo horjeeda wadanada kale ee mucaaradka ku aan anaguna China iyo wadano badan baan xiriir la sameeynaa hubna waan soo gashanaynaa wadankana qasab baan ku qabsanaynaa wallahi inaanu bariyeen saldhigana iyaga laga siinaya qasaba annaga dhulkan go'aankayga iskale annaga heshiiskayga la galayna ugaaska saxiixaya ugaaska ugu duugaya inay saldhigi ciidamo la keeno meeshaas
waxaan la raa awdal leenahay waxaanu ka shaqaynaynaa anagu horumarkeena iyo difaaca waddankeena iyo deegaankeena reservationka gobolada awdal taasay noo balana taasaa balan ah ها عاو وقتك وان كراغي waxaan leeyahay kulanti dambe oo xiiso leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan idiga tagayaa heestii markaasi xoreynta gobolada awdal insha allah hadda leedahay buuxda oo ku saabsan arrintaas hay heestii awdal state baan idiga tagayaa insha allah dib xoreynta gobolada awdal insha allah waxa weeye wakaasi xornimo la doonayaa lama doonayo waxa weeye midnimada waxa weeye anagu maanta mid macaarada iyo mid maxaafada awdal state way midaysan yihiin waxaan isku wada raacnay in maartay gobolka awdal la isku wada afkartay aqoon-yahaniinta mid yar iyo mid weynba la isku afkartay in gobolkan la qabto si gobolkaasi waynu ognahay kuma ma soconayso wax la yidhaaho waynu ognahay qolo kastaba deegaankayga maanta kusoo gelaysaa waad arkaysaa galmudug hirshabeelle koonfur galbeed qolo walba deegaankayga jubbaland maxayland annagana awdland baan wax soconayaa ma jirto war wax la yidhaahda ma jirto annaga na matali maayaan nama matala beesha dhex nama matalayaan nama matalaan somalilan hargeyso matalaan muusabix iyagaa ismatali doona annagana gaar baan isku matalayna gobolka awdal halkiisu yaalaan xuquuqdayaga iyo dhulkayga iyo deegaankayga iyo sooriskayga annagaa ka tashanayna aya ka tashigaygana gaadhayna annagaa ka tashanayna nooga talin maayo nin kalena tale ugama fadhino mana doonayno ciddii doonaysa isla ree awdalow talada cid kale idin hayo idin goynaya waad qaldan tahay ya ari waraaba raacsada ariya waraaba raacsaday soomaalidu ninkii ari kala qusatay geela raacisa bas awdal state ha noolaato soomaali ha noolaato halkani aad nagala socoteen waa Empire of the World Media oo idin soo gudbinaya barnaamijkii milicsiga faaqidada siyaasadda gobolada galbeedka iyo dareenka shacabka gobolada galbeedka laba sida waxaanu soo galnaa oo barnaamijka aanu intaasi ku gunaanadi doonaa insha Allah wax barnaamijka caawa idin
maaragtay ii soo shidaadiheynayay doctor mukhtaar dulmidiid oo idinle kulanti dambe oo xiise leh walaalayaal insha allah waxa weeyaan ha idin wacnaado habeen wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu insha allah waxaan ka tegi doonaa heestan aan idiga sii tegi doonaa insha allah sidaas baa markaas ku kala Allah ya balaya, Allah ya kubana.